يسعب هذا لغم بحا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو إلهو إسرائيل من دمدون فاغنا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو أجندة شكل الفريق الحاد لوضع كوني لحظة يقولها الفين دولة ديانك الصومالية صدق حزبي الشناد لوضع كوني لحظة أجندة كوباد وحنقولنا كوضع هذا لك مشاريع ظهر مريض وضعن شركات دتشيركا وكالة الاسماء هولها بيها وكالة النشقادين تأيو حفيزك بيها كوضع هذا لك أساس ده ورشة واتر بايب فاكتوري وجوينت فينشر نقانيسة كوضع هذا لك إن إذا عاد اس دبليو ديان كلا سمايو إذا عاد اس دبليو ديان كلا سمايو أنا كوضع هذا له كوضع هذا لك اسمها هفرنامية عصب هفرنامية هي السيدة وحنا بانا نحكوا حسبنا هفرنامية عصب مالها على شو أي دارين سكوا مرجع إنها هفرنامية عصب لاسي جرحان أولي مالها دبعت بيانات كسي شرتو مالها تلاصوح الشيء وحكم إذا يو هفرنامية هو السيدة هانيان ميردن بس سرحس كله جب يتولد الرقة قاشامو نص طريقة إسكودون يسوين يفرمدو هفرنامية يجنا متقناية جدا نقول شيء لقى سمايو كل حالك لوجو سماين لها الدولة دي كسماها أقوى سجود وفينجر برينت له مهمة بريه كل حالك أرمها وكالات الداخلية يرتدي وبحنت هذا صوب النكتو استمر كان سليه يقولون داخلي نويا لي halku marayo soo xareyntiisiyo ay noqonayaan kooda hadalka miisaanada dheeriga ah ee wakaalada jidadka dawladda Soomaaliya Ethiopia ay soo codsatay wakaalada waxay wadaa qorshayaal aad u ballaaran oo waaweyn qorshayaashaas waxa kamid ah kuwa jidadka ee wakaalada jidadka wado shaqadaas aad u ballaaran hadda soo qaata jidadka waxa weeyaan xafiiska soo dhigi doona waxa weeyaan jidadka wadooyinka wadada fiiq mayimluqo kale wadadii waxa weeyaan gasangas وانجي يو حمرو قبي بروجكتياس ماشي مريان يقاك وسعدان يو البورتيغا مقالة قبدار ويسوق مال في عمرية ميزانات بدنا وحوين متقناية وباهن يو ترمينال كيسي حوين البورتيغا يو ترمينال كيسي كويس كدي ومكان مع المكان البورتيغا يو ترمينال كي استمر كان ودا 3 كيلومتر ودا لامي دي هي البورتيغا اسكو حدث 2 كيلومتر بلاس مينس أنا وقتها وده اسكو حدا مقالنا لامدا قدي يو إيربورت كقبدار اسكو حدث تاس مركا وقرشاش لو وضع إيربورت بحنت أنا فردنا ماشي مريان انتنان أسحنن صادرت أنا كهلنا كدي مركا حويان دي لو بهنيا هي دي كوكل إن لو قدر أي بهانت هي دي أجندال لقى سالي جيران أيه waxaan soo jeedinaa ajendaashan imika aan la soo dhigay soo maray wadadeedii inaan saa ku qaadano oo saa ku ansixino wax laga reebayna ma jiro dhamaan waxay u eegtahay inay yihiin wax dalka iyo dadkaba aad u anfacaya maadaama ay yihiin inaan saa ku ansixino madaxweynuhu mahadsan yahay shir gudoonku waxaan leeyahay ajendayowani waa kuwa aad muhiim u ah in la deegaankeena waxa la socotaan dhibaatada ugu faraha badan haysata xilliyadii ama dhergigii ama xukuumadii hore aad uga meel horumar far badan kama jirin marka maadaama horumar hawli oo ku socdo horumarka ugu muhiimsan aan ku soconay yihiin jidadka iyo biyaha ugu muhiimsan yihiin kuwan hadda xoog u saaraya ama xagga miisaaniyada xagga ajnabiga waxaad moodaa kuwa danta dalka iyo dadka ku nool bataabanaya inay yihiin marka waxaan leeyahay intaan kuwan ajnabiga u qaadano marka ka bacdi inuu mid marka uga sii doodno markaas faafahinta iyo waxtarkooda iyo noqon doonta laakiin waxaad moodaa ajnabiga laf dhabarka horumarka iyo nabadgelyada higsanino muhiim ah inay yihiin saadarteed waxaan leeyahay aan ajnabiga kulligood buu qaadano sidoo iyo uu doon 12 ka dambe waxaad moodaa xagga xiriirka dadweynaha inaynu shaqo ballaaran ka qabanay marka kulliba arrimahan waa arrimo la soo darsay hadda ajendahan lagu daro uma jeedo laakiin hadii la karo short wave kan hadda SW gan waxa kale oo iyadana jirta FM hadii la raacin karo FM la raaciyo waxa jirta satellite dishka maadaama satellite ka aan ku jirno anagu radio waxa jira FM teena la gashan karo hadda khibrad dhawaan Amara TV dhawaan bay furteen FM toodina way garab socotaa marka inagana FM teena hadii la raacin karo dishkaas in bal qoliyaha dadka garanay soo darsan radio na TV part buleeya TV ga waan ku jirnaa qaybta raadiga laakiin waan ka maqanahay marka hadii halkaana la raacin karo waayo meel kasta uu gaaraya
waana FM fikirkaas markaa in halkaa lagu daran qaba صح أنا حندي لها أجندياش سوى الدنيا بوحوي ومهم ويه إنه قدرنا نعيتاي مركان حندي لها سوى الدنيا بس ضدا أنا قاعدنا aad wanaagsan isla markaana wax ka taray dhanka horumarka ajenda koobaad haddaan soo qaato waxa weeyaan waa ajenda muhiim ah waana waxa laga rabaa warbixinta wakaaladu inay si fiican u soo dhigaan gaar ahaan shirkadda nashqadeynta iyo dabagalka aan leenahay muhiimadda waxa weeyaan underground waterka warbixinteeda waxa weeyaan in ay soo dhigaan gaar ahaan meelihii xoogga la saarayay tusaale ahaan banka mataqaanaa habaar waalid oo kale qorshayaashii ugu dambeeyay waxa inaad isaga waxa weeyaan aad soo dirtaan waa laga maarmaan kadib waxa weeyaan designka shaqada waxa weeyaan 50% ama in ka badan waa designka haddii nashqadiisu waxa weeyaan si fiican u dhameystiran tahay fulintu way waxa weeyaan waxa u baahan tahay waqtiga iyo miisaanadii markaa u baahan tahay iyo waxa weeyaan mataqaanaa inputkii galayay laakiin muhiimaddu waa nashqada waxa weeyaan biyaha waxaan u baahnay inaan ogaano fiiq xamaro gasaangas water project in qaabka nashqada ay say biyo u soconayaan nidaamka waxa weeyaan ay isku bixinayso ta kale kan waxa weeyaan lab beer caano ceel weyne dhanaan water project kana in maxaan ku raaysan nashqadiisa aad soo dhigtaan nashqadihii kale iyo waxa weeyaan daraasadadii kale haysan inaad iyadana soo dhigtaan waa laga maarmaan ta kale qodobka kale isaguna waa ajendaashana kamid ah waa water pipe factory muhiimad bay noo leeyahay haddaan hadda soo qaato saad u sheegteen projectyadan labadan project kaliya waxa weeyaan kan lab beer caano ceel weyne dhanaan project iyo waxa weeyaan fiiq xamaro gasaangas water project 340 kilometer ama 350 kilometer oo waxa weeyaan tan pipe-kan waxa weeyaan wada kuwiisa lagu sameeyay ay u baahan tahay oo taas input dhammaan marka laga reebo waxa weeyaan DCI-ga kuwa la leeyahay marka laga reebo UPVC waxa weeyaan pipe-ka 300 ilaa 40 ama 50 kilometer oo tuba ay u baahan tahay oo hadda waxa projectada in loo iibiyo u baahan taas waa laba project kaliya marka labada project oo miisaan badan naga baxayso hadii warshada aan lahayn waxay noqon lahaa kostiga yaraan lahaa maadaama deegaankana meelo badan inaan ka dhisnaan u baahnay marka warshada saas waxa weeyaan baahidaas keenaysa mashruucan hadda waxa weeyaan dhanaan lab 250 milyan oo yaraan mataqaana meelahaas u noqonaya yaa ku baxaysa kan dhanaan lab dhanaan haddaan soo gaabiyo kan kale waxa weeyaan isagana fiiq gasaangasna lacag isagana waxa weeyaan mataqaana inta ku dhow may noqonaysaa marka kulay shirkadda soo dhigtay waxaan ka wadaa miisaaniyadaas inta badan waxa noqonaya in lagu soo iibiyo pipe-kan warshadaha dalka in laga soo iibiyo noqonaysaa marka in warshada aan sameysano saasay maxaan ku fiican tahay oo joint venture lagu sameeyo sida axmaarada iyo oramada iyo waxa weeyaan tigrayga kale way sameysteen way leeyihiin axmaaradana way leedahay oramadana way leedahay tigraygana way leedahay waxa marka in warshada aan sameysano dib wax noo diiday ma jirto inaga ma u baahan tahay inaan sameysano warshada waliba waxa noqon doontaa mataqaanaa meel badan bay suuq inay heli kartaa yaa suurtagal marka taas marka ajendayaasha soo sheegtay waxa la qabanaa saxno in si taageersan 12 ka ajenda inaan ka doodno aan uga doodno qacanta taagto okay cid ka masta cidii hadda jirto saas inuu gaarsaxay biyo sacabada lagom baxa balantenu waa shaqo balantenu waa shaqo beeraha israaciyo midnimadoodu baaqda balantenu waa shaqo laba mashruuc waaweyn oo cusub oo sanadka la qorsheeyay baa jira kilometer aad u badan runtii soconaya marka layout-ka systemka saan u sameynay iyo guud ahaan waxaan briefing inaga siinaynaa labada mashruuc mid waxa weeye fiiq xamaro gasaangas buu soconaya labada degmo ee fiiq iyo xamaro ayaa ka wada faa'iideysanaya iyo bulshada u dhaxaysa labada degmo ku nool ilaa gasaangas buuna gaadhaya mashruuca labaadna waxa weeyaan waa dhanaan laab buu ka bilaabmaya goobta laab qabalaha laab ayuu ka bilaabmaya degmada beer caano ayaa sablaagi helaysa ceel weyn baa helaysa sidoo kalena degmada dhanaan systemkaasi expansion buu leeyahay ilaa mustaqbalka degmooyinka ku yaala wadada ee xagga goday degmada hadhaawo kale
wadada saaran ilaa baarguun oo wadada laakiin ka fog laakiin jidkan sokeeya dhanaan xaggiisa marka laga soo bixay goda loo soo socdaa mustaqbalka waa la gaarsiin doonaa haddii lahaydmo sidoo kale mashruucani meelo badan oo BLE ahayd ama dad badan iyo dunya badanba ku noolaayeen oo in muddo aan helin wax adeega ayay adeeg siin doonaan marka waxaan u gudbaynaa oon ka bilaabi fiiq iyo xamaro gasaangas mashruuca ah in layoutkan oo kii loo sameeyey khabiiradii sameeyey wiil ka mid ah inuu inoo soo jeediyo ama inoo faahfaahiyo አመሰግናለሁ። ይሄ እንግዲህ አሁን የፊክ ሀመሮ ገሳንገስ ወተር ሰፕላይ ፕሮጀክት ሲስተም ሌያውቱ ነው። የዚህ ፕሮጀክት ምንጫችን እንግዲህ እንደምታውቀው ስፕሪንጎች ናቸው። ስፕሪንጎቹም ስማቸውም ጀርዱላና ደበላ የሚባሉት ናቸው። ሁለቱም አክቹአሊ ኤረር ወንዝ ውስጥ ነው የሚገኙት። የላይኛው ነው በጣም ትልቁ ምንጭም ጀርዱላን የሚባለው ማለት ነው። ጀርዱላን ማለት እዚች ጋር ነው የሚገኘው። kani waa qorshaha mashruuca biyogelinta fiiq xamaro gasaangas mashruuca biyogelinta waxaa ilo inoo ah waa springiyadan magacadooda waxaa la yidhaahdaa jaargulan iyo dalaba labaduba waxay ku dhex yaalaan webiga erer ka sare ayaana ah ilaha ugu weyn oo la dhaho jaargulan wadada hadda la samaynayo ee fiiq ilaa mayumuluqa jidkaas ayuu ku abbaaran yahay oo uu ka soo baxa springigan waxa uu daqiiqadiiba soo saara 47 litir inta in ka badanna waa uu soo saari karaa ilahani waa kuwo in badan jiray oo aad u weyn isla markaana dhinaca quality-gana aad u sareeya waxaana jaargulan springi laga samaynayaa reserve ama keed 5 mitir ah kadibna fogaansho dhan 6 kilomitir ayuu gaarsiinayaa biyaha meesha la dhaho miigweyne iyada oo toos loogu qaadayo webiga kadib 6 kilomitir ilaa 17 kilomitir masaafo dhan ilaa fiiq waxa uu biyuhu ku tegayaa graftiga meel fiiq agteeda ah halkaana waxaa jira keyd halkan kadibna ayaa sidoo kale loo baahnaanayaa pampi kale keydkan iyo ka fiiq ku yaalana waxaa u dhexeeya 9 kilomitir oo ah pipeline waxaana halkan loo baahan yahay 2 pump station mid waa spring dushiisa ka kalena meesha 17 kilomitir u jirta kaydkan fiiq waxaan sidoo kale u adeegsanaynaa kaydinta 300 oo mitir cube ayuuna qaadayaa halkan ilaa xamaro waxa uu biyuhu ku tegayaa grafitiga isagoo oo aan u baahnayn pampi iyada oo la raacayo wadada ka tagta fiiq ee tagta xamaro fiiq waxaa jira 2 qabale oo ah degmada fiiq ka tirsan degmada xamarana waxaa jira 3 qabale annagoo qabaleeyadan biyaha gaarsiinayna ayaa waxaan toos u gelinaynaa xamaro ka kalena waa meesha la yidhaahdo dalaba meesha waxaan ku heshiinay in aan design-ka ku darno oo ay ku jirto xamaro ilaa gasaangasna waa 38 kilomitir xamaro ilaa gasaangas waxa uu biyuhu ku tegayaa grafitiga juqraafi ahaan fiiq waxay ku taallaa xy eber 8.14 xamarana degmada xamaro markaan eegno biyogelinta degmada fiiq iyo degmada xamaro waxaa jira ceelal gacmeedyo iyo baraako degmada fiiq 32 ceelal gacmeed iyo 52 baraak iyo waliba 8 pound ayaa jirta inkastoo ay badan yihiin ceelal gacmeedyadan iyo baraakaan haddana waxaa jira oo aan aragnay biyo yari taasi oo marka ay dadku dhaansanayaan u baahan waqti inay siiyaan markaa sida awgeed saddexdan magaalo ee fiiq xamaro iyo gasaangas iyaga waa magaalo ahaan kuwa kalena waa qabilayada hoos yimaada waxaanan qorsheynay annaga oo eegayna tirada shacabka ku dhaqan halkan ilaa sanadka 2035 ayaa waxaan kaalkuleet garaynay dimaandigeenna maximum day dimaandiginu waxa uu noqonayaa 2034 41.45 litir daqiiqadiiba oo aan mashruucan ugu talagalnay labada ilo biyood inaan intan ka helno ayaana lanaga rabaa oo ah 41.45 oo litir daqiiqadiiba waxaana webigani ka jira ilo biyoodyo badan dimaandiga sanadka 2019 waa 26.6 oo litir daqiiqadiiba 2034 41.45 oo litir beer second pipeline-ka aan ugu talagalnay mashruucan waa 181 kilomitir pipeline GRP-gana labaduba waa 18 kilomitir kanina waa ka imanaya Jargulan Springi oo aan u adeegsanay GRP ka kalena waa UBVC pump kanina
ahina waa mid aan keensanayn wax dhibaato ah sidoo kalena waxaa mashruucan ku jira 250 mitir cube kaydad qaadaya 150 mitir cube kuwa qaadaya 260 kuwa qaadaya 150 mitir cube oo ah 2 kayd iyo 100 mitir cube ku qaadaya oo ah 3 kayd iyo waliba 50 mitir cube oo ah mid waxa kale oo jira 30 water point iyo waliba 25 loogu talagalay goobaha ay xooluhu ka cabaan dhinaca dhismayaasha waxaa jira xafiisyo iyo waliba goobaha ugu talagalnay generator oo ah laba mudane madaxweyne waxaan rabay inaan yar aan xaggan faahfaahin ama xubnaha kaabinega sharafta leh inay fahmaan rabno waxa weeye halkaas oo fiiqa markuu soo gaadho laga bilaabo wixii ka dambeeyay wax maartay bam ama kharasha uu inooga baahan yahay midna ma jirto graffiti bay biyo noogu soconayaan oo ku gaadhayaan ilaa iyo gasaangas waxaan sababta ugu istaagnay waxa weeye webiga daaqato aad u weyn ayaa meesha marayo kala goynaya xitaa degmada dhuxun iyo qabaleeyo kamidii way ka faa'iideysan karaan ta kale arinta mashruucan faa'iidadu leeyahay waxa weeye 2034 oo maximum day demandiga marka la xisaabiyo maalinkii biyaha loo baahan yahay oo inta ugu badan wali waqtiga biyo biga yihiin marka la xisaabiyo 41.45 litir per second baa loo baahan yahay halka jardulaan oo hadda springigan biyaha ka soo qaadayna ah estimate-ka hadda aan ka haynaa uu dhan yahay 47.68 tan waxayna tusinaysaa ilaa xitaa muddada dheer ee 34 sano ama 15 sano mashruucu daadiisa la xisaabinayo water demandigan lahayn waan haysanaa oo already waa wax gacanta lagu hayo oo development u baahan arinta kale muhiimka waxa weeyaan jardulaan meelo badan oo deegaankeena ay kaga duwan tahay springineeda ku yaalay kan kaliya ma markii aan tagnay meesha kan xogtii aan madaxweynaha socdaalkiisa aan ka helay aan ku tagnay dadku area-da kala duwan marka laba buurood aad dhaafsido mid baad ugu tagaysaa spring kan oo kala ah laakiin ka biyo yar kuwa xitaa biyo kulul ah ayaa meesha ku yaala oo laga helay marka springada haddii dee inta development fiican aan ku samayno kuwan in lagu soo xidho mustaqbalka uu yimaado waxaan hadda ku fikiraynay ama istuusaynayba degmooyin badan oo kale sida degmada sagag iyo xaggan marka loo soo noqdo garba xaggeeda iyaga laftigoodu waa biyali meelaha biyaha underground-igana aadka uga fog yahay ayay ka mid yihiin waxaanaan marka aan rabnay in tan intaan eegna haddii miinsi kale oo inta buurahan meesha ku yaalla meel u dhow inta la saaro baa graffiti iyaga laftigooda lagu gaarsiin karo maxaa yeelay dee 2034ka oo xilli fog ah demandigiisii still waan haysanaa xiliyadan hadda ka horeeyeen dee demandiga kale ee jira ee waqti xaadirkan aan usii baahanahay aad buu taa uga yaryahay oo arrin isku dhiganta maaha ama mid isku dhow maaha aad buu uga yaryahay tusaale ahaan haddaan soo qaadano 2024 ko kale waa 30.35 intaa weeyaan okay way marka taas mashruucaasan maxaan ku rahay waa mid aan uga sii faa'iideysan karno mashaariicda kale waa sax weeyaan aad buu fiican yahay mataqaana qaabka aad u soo dhigteen waxa weeyaan mashruucan kan aad soo dhigteen mid waa horta waa xaqiiqa tan inuu waxa weeyaan gravity ku soconayo marka la dhigo fiiq buurtan fiiq waxa weeyaan sare ilaa iyo gasaangas socdaalkaas inuu soconayo waa mid xaqiiqa oo cid aan engineer ahayn baa iska garan karayso taa waxa weeyaan sax laakiin shirki markaan aan shalay shirkeeni waxa yani inta noqonaysa waxa weeyaan DCI-da waa meesha mataqaanaa minjiga laga helay ilaa iyo imsa kilometer bay noqonaysaa meel 613 waa 19 صح اوكي xujna waan dhameynay marka waxaan qabnaa hadda in already implementationkii iyo phase-kii kale fulitaankiisa unaan gudagalna ayaa aan ugu taagan yahay waxa la mid ah ka kale dhanaan isagana inaan present garayno layrkii baa gaarsiisan marka ma jiri kara system layrka fiiq intii looga jiido korontada fiiq in dieselka laga maarmi karo oo maaragtay ama toddobaaqi laga dhigi karo oo loo isticmaali karo korontada fiiq loo isticmaali karo ma jiri kartaa nidaamka extra han loo isticmaali karo waa su'aalaad u fiican hadda waqti xaadirkan electromechanical-ka aan design garaynay waxaan ku design garaynay in generator caadi la soo iibiyo oo la dhigo diesel ah oo noqdo la sii isticmaalo laakiin mustaqbalka maadaama leerka hadda laga sameeyay fiiq
100 kilometer square area dhulka kamida uu gaarayo qorshii uu jirana in la gaarsiiyo mustaqbalka waa mid aan isticmaali doono oo loo bedeli doono electricity-ga caadiga in mootarada ay ku shaqeeyaan leedka laakiin inta taa laga sii gaarayo hadda waxaan ku design gareynay in diesel caadi loo sii isticmaalo waa sax weeyaan horta su'aasha way fiican tahay su'aashu soo dhigay waa aad bay muhiim tahay laakiin waxa weeyaan si mashruuc hadda si mashruuc u shaqo gala diesel inaad ku bilowdaan waa laga maarmaan tan kale waxa weeyaan mustaqbalka laakiin de maadaama fiiq looga jiidi karo oo waxa weeyaan meeshan minjiga fiiq looga jiidi karayo in proposalka hadda iyaga la siiyo waxa iyada lafteeda wasaaradda korontada ay istimashkii waxa gashay sida uu soo dhigay waa muhiim waa shaqo naga sii soconayso marka iyada lafteeda hadda in goon la bilaabo waa laga maarmaan waa dieselkii bilowga hadii waxa weeye mashruuc intuu socdo ee hawsha socdo iyo laga gaarsiin karaaba saan aaminsanahay parallel ba mataqaan la wadi karaaba oo tiileerkana la gelin karaa already designkii mar hadii aan isla xaqiijinay halkaasna ay rugtii biyo ka soo baxayeen ay tahay halka rugta in leerkii la gaarsiiyo maadaama fiiq laga qaadi karo oo kilometerkeedana uu yar yahay iyagoo hadda already xamaro way bilaabeen leerkii in la geliyo 24 hours ka qubina way bilaabeen oo qubi xamaro hadda toos buu galayaa marka maadaama xaggan qubi markuu socdo xaggan marayo kaamba looga leexin karaa anigu marka kaas waxa weeyaan su'aal kala duwan jirin aan ka gudubno sharaxay aad buu fiican yahay arintan anigu waxaan rabaa inaan weydiiyo land formation ምንድነው የሚመስለው አሁን በኋላ ሲቪል ወርኩ ላይ ችግሮቹ ምን ይመስል ሌላው ላምስቶን ያነሳው ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል የላምስቶኑ ሌላው ደግሞ ሬንጅ ላንዱ እስከ ድረስ ነው ዲቨሎፕ ማድረግ የሚቻለው ስንት ኪሎ ሜትር ኤስቲሜት አድርጋችሁታል ወይ kule horta reportiga si fiican bay soo dhigeen haantan fiiq la dhigayo waxaan malaynaya waa haanta ugu weyn 250 mitir cube ah marka haantaasi xamare iyo kasaankas iyo magaalada fiiqba biyaha ma u qaybin kartaa saddexda meeloodba mid kale isticmaalka biyuhu soo noqon doona haantan hadda magaalada fiiq iyo biyo gelinta ilaa kasaankas tagi doono dhan waa haantii maxay ahayd biyaha laga sii deyn lahaa marka magaaladu say u cabi doontaa systemkan dheer biyo gelintana soo noqon doona marka qaabka isticmaalka biyo marxab su'aasha horeeyay wasiirka Cabdiraxmaan Diyaan ka jawaabno waa 6 kilometer ugu horeysa weeyaan marka laga soo baxo goobta minj development-ga aan ka sameeyay ama spring development-ga laga sameeyay ilaa laga soo gaadhayo buurta duleedkeeda inta u dhaxaysa weeyaan inta buuraleedii ama dhagaxa GRB-ga aanu isticmaalino tan dambe xaqani dhul ahaan laftigeeda ma dhibadna laakiin pressure-ka awgi ayaan GRB-ga aan isticmaalno nagu qasbaysa arinta ah in rangeland development-ga meel kasto within 5 kilometer maadaama loogu daray xoolihii iyo dadkiiba goobo water point-iyo ay ka cabaan meel kasto ku haboon in inta daraasad gaar ah laga sameeyo rangeland-igu study gaar u baahnaan doona inta area hadda rangeland development aan isticmaali doono ama aan xulan doono oo area-da hadda ka hor wax land use studies oo laga sameeyay ma jirin laakiin dhul badan oo markaad isha aragtid loo develop garin karo ayaa jira sababta mashruuca water supply kaliya loo dhihi waaye multi village water supply and rangeland development loo yidhina taawgeed weeyaan oo kama wada maqnaa in aanu isticmaalno ama mustaqbalka looga faa'iideysto rangeland development reservoir-ka weyn ee ku yaala fiiq aan ka sameeyno talagalku wuxuu yahay in uu laba ujeedaba ama laba service ba uu nasiyo ayaan ugu talagalay mid waxa weeye in magaalada fiiq oo water supply gaara yeelanaysa oo magaalada distribution-keedii la gelinayo in biyihii magaalada looga sii daayo reservoir magaalada keedu ah uu noqdo at the same time in uu reservoir-kani biyaha tegaya ilaa gasaangas de meesha laga sii deyn doonay ama booster garayn doontay biyuhu ka socon doonaan inuu noqdo marka waa reservoir aad weyn 250 wala mutahamsan ወያን በመጀመሪያው እንትናችን እቺ የደበላው ስፕሪንግ በሁለተኛው ቱን ሳይባል መሰረት መጀመሪያ ማለት ነው
ሐመሮና ገሳንገስ ቀጥታ ከደበላ ነው 19 ሊትር ነበረን። ሐመሮና ገሳንገስ የሚያስፈልጋቸው 14 ነጥብ ምናምን ሊትር ፐር ሰከንድ ነው። xamaro iyo gasaangas waxay ka helayaan dalaba waxayna u baahan yihiin 14 litir iyo in ka badan daqiiqadiiba waxaanan ka soo jiidaynaa dalaba sidoo kalena xamaro iyo gasaangas ka fiiq waxa aan ka dhigaynaa kaydka 250 mitir cube qaadaya fiiqna waxay u baahan tahay 16 litir daqiiqadiiba hal kayd fiiq ayuu siinayaa kuwa kalena qabalayada miyiga mustaqbalkana mashruucan waa mid la ballaarin karo goobtan halkaas laga bilaabo dabala intaan xaggan ka soo saarno ilaan goobtaa keenay ahayd oo xaggan toos waxa loo soo wadaya intan u dhaxaysa ayay buuro aad u waaweyn ku yaalaan toos uma soo baxaynin halka intaan ugu sameeyno reservoir inaan kan kale halka kaga xidhno ayuu ahaa qorshaha iyagu oo demandiga aan xaggan ka helaynay 47 kaliya marka hore qolada gibrinaaga uma naan wada report garanino halkan inay ka yaraataan filaynaaban anagu aan ku doodinay maxaa yeelay in biyahan aan xaggan ku soo xidhno laba arrimood bay naga caawinayeen hadda 47 marka 19 loo geeyo waa almost 60 waxoogaa weeyaan intaasoo litir per second haddii aan helayno waxay noqon lahayd in aan ku xisaabtano degmooyinkan aan sheegayna hadda xagga dhagaxmado iyo sagag xaggooda degmooyinka ah elevationkooduna waa caadi aad buu wanaagsan yahay biyana waa looga baahan yahay sida webigu togan erer uu noo daaqata uu noo soo xidhay xaggan kale webi xitaa saa weyn oo noo xidhay ma jirin marka mustaqbalka ama xilliga dhowba waxaan ku tala bixin lahayn in springigana si fiican intaan u develop garayno systemkan la isku xidho si marka la joogo xamaro wixii ka dambeeya optionada meelaha biyaliida ee deegaankeena ka jira degmooyinka ah aan uga sabalay garan karno marka waa system hadda qaybtan aan ka sameynay almost in aad u yar weeyaan laakiin intan in ka badan still waa la develop garan karaa waana la gaarsiin karaa halkan laftigeedana saan markii dhawto sheegay springana kale oo lagu soo xidho discharge-goodu aad u badan yahay ayaa la heli karaa marka waa project koleyba the feasibility-gaan hadda sameynay study-guna uu viable yahay mustaqbalkana nolosha dadkeena iyo degmooyinkaaba wax weyn ka bedeli kara nagabo dhan wax weyn ka bedeli karaan qaba marka lagu daro biyo qaybinta magaalada dhexdeeda sida fiiq oo kale biyo qaybinteeda marka lagu daro 190 milyan weeyaan wuxuu noqonayaa ilaa gasaagasa systemkan oo dhammaystiran oo supply-gii fiiqna uu ku jiro weliba weeyaan dabala intaas unbaa ka maqan intaa dabalaa ka maqan biyo sacabadaada lagoon baxaa balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo beerahoo israaciyo midnimadoonu faaqnaa balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo desaanka qaabka ila muuqato waa qaab u fiican kan dabalana in lagu xidhay waa laga maarmaan si waxa weeye mustaqbalka lagu sii jiido saas sheegaysay togan waxa weeyaan gasaangas marka la joogo mustaqbalka waa laga bamgaran karaa toga daaqata waxa weeyaan buurtan fiiq oo kale oo lagu rakibi karo kadibna inta ka hooseyso saan anigu isleeyahay wuxuu noqon karaa mataqaanaa inuu kala sareynta dhulka mataqaanaa gravity uu ku socon karo iyada lafteeda ilaa waxa weeyaan barmiil uu ku socon karaa ilaa dhuxun uu ku socon karaa ilaa garb uu ku socon karaa mustaqbalka taana ku fikira oo waxa weeyaan qorshaha fogna aan ku xisaabtana kana mashruucan saas ahaado laakiin waxaan kuna maskaxdeena in ka lagu hayo desaynkiisa wixiisa maskaxda ku haysa laga okay lacagta lafteeda bal ka yar hal markaan eegno inta kilomitir uu yahay iyo inta magaalo sababtoo xamaro iyo fiiq iyo wax waa magaalooyin waaweyn population badan leh kolka ilaa gasaangas sidaas darteed waxa weeyaan lacagta hadda ay soo propose gareeyeen waa feasible mashruuc engineering estimation marka hore wakaaladu inay sameyso ay tahay dan contractor kuna qiimo inuu ku soo buuxiyo almost laakiin hadda taas in marka contractoradu ay kaba badiyaan laakiin almost qiimahan hadda isticmaalnay annagoo ka duulayna constructionka enterprise-keena qiimihii uu noqon lahay realka ka annagu hadda diyaarinayo iyagu ay ku buuxinayaan ama ay ku tartameen wax badan uma dhexeeyo documentiga markaan hagaajinaynay hadda kahor mid ay buuxiyeen baa jiray oon isticmaalnay marka costigu waa very visible waa aad buu u yaryahay marka loo eego mashaariic inta laaleeg lacagta ku baxaysa iyo hadda keenan qiimaha lacagtaan ku qiimeynay waa viable taa laftigeedu marka biyo haddii la helaba intaan doonaan ku helo markaan ay leedahay 190 milyan
halkii kilomitir ba 1 milyan oo kale ay ka dhinta 180 kilomitir marka waxaan qabaa maxaan ku leeyahay inay effective tahay ay isbedel weyn ka keeni doonto waayahay marka mashruucan asaasan ka gudubno waxa weeyaan mashruuca dhanaan iyo laab dhanaan soo dhigaa waayahay mashruucan degmada Ceelweyn iyo dhanaan marka hore degmada Ceelweyn dibaniyada maaragtay aan uga dar meel locationadii madaxweynuhu safarka markuu jiray noo soo direen isagii Cabdiwahaab goob annawan ku qornayd ayaa marka dambe kii saxda ah helnay waxay noqotay degmada beer degmada Ceelweyn soo hadda saddex degmo iyo qabalahan laab oo isaga laftigiisu qabale aad u weyn ah ayaa ka faa'iideysanaya mashruucan runtii waa mashruuckii hore kala lamida aadna uga baaxad weyn kan laftigiisuna expansion yeelan doona mustaqbalka marka in layoutkiisa uu noo yar faahfaahiyo abiyad fansin አይ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የላብ በራአኖ ዳናን ወተር ሰፕላይ ፕሮጀክት ሶርሱ ብለን ያሰብነው ዋቢ ሸበሌ ሪቨርን ነው። አክቹአሊ እዛ አካባቢ ግራንዶ ተርም አጥንተን ነበር። ይልዶቹ ትንሽ እንትን ስለሆኑ ዋቢ ሸበሌ ወንዝን ለመጠቀም ነው። ያንንም ያረጋግጥ waad mahadsantihiin halka biyaha looga soo jiidayo mashruuca Allah beer caano iyo dhanaan oo webiga Shabeelle run ahaantii deegaankaas waxaan daraasaad ku soo sameynay ground water sababtaan u sameynay ayaa ah in waaxigaas geeyigaas oo aad u ballaaran siiba garbo sagaag iyo barmiil ma lahan water supply si aan iyaga mustaqbalka uga faa'iideyno ayaanu tagnay lab kani waa webiga Shabeelle waa kanaal yar riverbedka ka hooseeya waxaa jira dhagax isa saaran sidii stage-kii oo kale waxaa ku jira tuumbooyinka biyaha soo nuugaya si ayna kanaalkan siltigu wax ugu dhimin waa mechanism aan u qaadanay weeye webiga agtiisa waxaa ku yaala wet well saddex tuumba oo vertical oo si toos ah waaxiga lab looga geynayo treatment plant sababta aan u xulanay ayaa ah in leylka la gelinayo goday uu marayo halkaas isla markaana mustaqbalka aan isticmaali karno markaan laab ku sameeyno treatment plantigeena collection chamberku waxa uu hore u galayaa Ceelweyne waa pick pointigeena waana mid mustaqbalka looga geyn karo biyaha sagag iyo garbo waana goob aan isooran karno waa safe haddii aan pump ku sameeyno u gudbaya dhuxun treatment plantiga ilaa collection chamberku waxa u dhaxeeya qiyaastii ilaa 45 kilomitir marka cadaadiska loo eego waa pipe 300 DCI ah kadib waa graffiti waxay wax ku soconayaan halkan waxa ku taala Ceelweyne kadibna waa malkataka oo aan ka helay khariidada kadibna waa dhanaan ilaa reservoirka u jirta 56 kilomitir waa pipeline tani oo beer caanaha dhanka hoose ayaan ugu gelinaynaa 5 kilomitir oo kasta waxaan ku fikiraynaa inaan ka sameeyno water point iyo waliba cattle travel labada dhinac 1.5 kilomitir oo radius ah ayaan ka dhignay dhanaan marka loo geliyo wadada laamiga ah ee goday ayuu sii raacayaa marka laamiga la raaciyo gobolka qoraxayna waa loo geyn karaa hadda dhinac kasta ayuu socon karaa waa graffiti oo kaliya waxay wax ku soconayaan maadaama dhulku hooseeyo mashruucani waxa uu dabooli karaa 315 kilomitir waxaan u qaybinay laba waji oo mid ka hor u yahay 155 kilomitir dimaandigeena oo ah 2034 wax sekondigiiba uu soo tuuri karaa 116 litir waxyaaba mashruucani ka kooban yahay waxa kamid ah pump station wet well raising mile treatment plant clean water reservoir iyo kuwa kale waad mahadsantihiin kulay mashruucu waa mashruuc aad u ballaaran marka dhulka uu marayo la eego iyo inta degmo isku marayo waxaan oran karaa mashruuci ugu weynaa deegaanka marka maxal kuwa shinil la sheegay la arko aad saddex degmo oo waliba sida uu baxayo iyo inta isku goynayo dhulka iyo biyaalanta ka jirta marka la eego waa mashruuc aad u qiimo badan design si fiican loo sameeyay buu ila muuqdaa iyadoo saatay laakiin hal su'aal ayaan soo jeedin lahaa webi Shabeelle biyuhu way isbedelaan mar labada geerba ku socdaa isagoo oo aad u xoog badan kolka design-kana waxa ku jiray hoos dhulka inba waa la goynaya mar malayna inta hoos loo gooyo iyo levelka biyuhu way galayaan kanalka ugu horeeya way galay wetwellka ugu horeeya u dambeeyna waxyaalaha ay sifeyso meesha lagu sifeeyo webiga ayay ku soo noqon taas ku soo noqoshada dhib male laakiin marka ay galayso taxadar intee leeg ba laga sameeyay waayo
waqtigaas inuu dhibaato keeni karo webigu maadaama uu xoog badan yahay waqtiga samarka ay roobabku highlandiga buuraleyda aada uga da-aan halkaas in intee leeg baa designka taxadar intee leeg baa laga sameeyey su-aashiisu taas weeye aada baad umasan waxa weeyaan reservoirka hadda halkan ka muuqda webiga caradii way buuxsami karaysaa marka laga waxa weeyaan markuu muddo shaqeeyaba sidaan ku harnay mashaariicda matala mashruucan jarati hargele mashruuca jarati hargele waxa weeyaan wuxuu leeyahay labo isagu waxa weeyaan spare sidii maalintan ka wada hadlayna oo kale marka tiima loo sameeyo oo macnaa markuu kani waxa weeyaan reservoirkana marka hadday cara gasho oo waxa weeyaan webigii intaan biyaha la sifaynin markii biyihii webigu laga soo qaado isagoo macal caradii soo qaadaya bamkii den waxay keenaysaa muddo 4 bilood ama 3 bilood inuu ku buuxsamo isku xidho intaan la sifayn biyaha bad ee aan isticmaal kala gaadhin marka kan markuu xidhmo kan kale in la isticmaalo oo waxa weeyaan inta kan laga saarayo carrada kan kale waxa weeye maxaan ku raaya iyo wixii soo dhaxgalay marka aan loo baahnayn inta laga saarayo inay biyuhu kala go'een laba nidaam oo kala samaysan tahay ta kale waxa weeyaan iyadana inay soo dhigtaan miisaanada ku baxaysa intee laag bay la egtay yahay iyo xubnaha kaleba su-aasha u horeysa maaragtay webigu wuu isbedbedelaayo aad maaragtay weliba isbedbedel kelimaahe dhoobo badan buu ayuu soo qadaa ahmiyadda guudna maaragtay integan goobta laga sameynayo ayaan saarno in badan designka intii la sameynayay qaybtana waktiga badan qaadatay ama dee aqooyaan kala duwan oo ilaa macalimiinta Addis Ababa University macalimiintoodu way ka qayb qaateen oo way comment gareeyeen layoutkan imika ugu dambeeyay finalkan gacanta ku haynana markii koowaad iyo markii labaadba mid aan dee gaarnay ama aan helay maahine mid talooyinkii badnaa ee lasoo jeedinayay ka yimid weeyaan waxaan u maleynayaa cabdihaab fadhigii ugu horreeyeen present gareynay uu nala joogay layoutkii aan present gareynay noocan uu ka yar duwanaa haddaan usoo noqdo su-aasha qaybtan imika intan samaysan ee 720 mitir ah ee intan dherarkeedu dhan yahay waa qayb shub iyo dhagax kala duwan oo sidii maaragtay traditionally biyaha loo sifaynayay ah dhagaxaan waaweyn halka hore ay yaalaan oo soo yaraanaya marba mar ka dambeysa si infiltration caadi oo natural oo maaragtay biyo nadiif ah meesha u gaadhaan wixii waaweynaana ay ka soo hadhaan ayay intan u samaysan tahay waa supporting wax oo caawinaya mashruuca qaybtiisa kale had iyo jeerna lama isticmaalaye halkan irid buu ku leeyahay goobta markay gaadho irid buu ku yeelanayaa xidhan had iyo jeer xilliyada laakiin minimum waterku biyo markay aad ka u yar yihiin xilliyada jiilaalka oo kale webigu biyuhu aad ka u yar yihiin si aan systemkii biyaha ka qaadayay meeshan u design gareynay una bilaa biyo u noqonin ama biyo aan loo waayin qayb hoose oo filtrationkeedii naturalka ee maaragtay traditional methodkina loo sameeyey si aan biyo u helo the minimum levelka webigu markuu leeyahay ayaa qaybtan loo develop gareeyay ama loo sameeyey marka kale caadi biyuhu dushan sare ayay kasoo gelayaan hoosta halkaas imika aarowdu ay muujinayso waa xilliyada minimum maaragtay water flowga uu jiro goobtii kasoo geli lahaayeen mar kale caadi dushan ay kasoo geli filtration systemkana si wanaagsan oo wuxuu u design garaysan yahay aan lala sugin horta waa mare xilligii ay buuxsameeyey moteryar baa ku xidhan halkaas wixii dhooba ah qaybtaas inuu ka soo daadiyo uu had iyo jeer intuu laaqa biyaha inta dhoobadana uu soo daaro biyaha nadiiftiina ay hadhaan ayuu u design garaysan yahay qaybta kale labaad waxa weeye qaybta madaxweynuhu uu soo jeedinayay su-aasha in layoutka kale aan ku noqono ayay u baahan tahay taasna kolley waan ka taxadirnay talo fiican uu markii hore ugu horreysay madaxweynuhuna siiyeyna ilaa deeqadii u dambeysay waan isticmaalaynay runtii waynana anfacday oo treatment plantiga dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda mashaariicda kale ee dalka laga sameeyey laftigooda lagala kulmay waa goobtan treatment plantiga weeyaan goobtan treatment plantiga taladii ugu horreysay qaadanay waxay ahayd anagu in aan treatment plantiga weyn marka la sameeyo laba goobood oo 6 biloodba mid in la isticmaalo 6 biloodba in mid la isticmaalo oo markay tani dee wasaqaysato inta kale loo wareego intan la sifeeyo laakiin isaga oo boxka weyn ee la sameynaya hal sanduuq oo weyn kaliya uu yahay sida gurigan imkaan dhex fadhino oo kale ayaa haddana gudihiisii partition in 4 meelood u yeesho oo qaybtaasi qaybta koobaad talabaad oo ta saddexaad oo mid walba demandigi loo baahnaana ay shuruudiisii buuxinayso in marka seasonkiiba si sahlan intaan u qaybino dadkuna haddii ay aad u buuxsanto maadaama ay kuba daali karaan markay qofka halkaa ay soo dhaaftay waxoogaa jilibka dushiisa oo muddo 3 bilooda siltiga ay buuxsami kartaa lagu qiyaasayo in qaybta koobaad la iska xidho talabaad la isticmaalo
marka marnaba inuuna imanin systemku maadaamuu lacag badan dhul aad u badan dee nolol baa abuurmi dadkii haddana markay 6 bilood ka cabaan haddii la yidhahdo wixii wuu feelgareeyey rajago badan baa imanayo meel laga soo kaban kara maa sana marka taas u imanin waxaan u samaynay in 3 biloodba partition ka mid a treatmentiga in la isticmaalo wixii dhooba galana inta kuwa kale la isticmaalayo wareegga waxay soo gaadhuun dee treatment walbaba muddo dheer buu haystaa oo waxay haystaan 9 bilood kabacdi baa kii ugu horreeyay lagu soo noqon oo la isticmaali si ayna u dhicin maaragtay xilliyada dhoobadii in meel gaarun ay noqotona intaa dee la kala shift gareeyo marba mid la isticmaalo ayaan u design garanay marka taas iyada confidence buuxaan ka qabnaa cabsina kolley inuu noqon doono weliba filaynaa river integrity markii la sameeyo dee waxyaabihii hadda ka hor waddanka laga soo sameeyey failaritygoodii iyo dhibaatooyinkii qabeen iyo sababtii ay saa u noqdeen dadkii ka shaqeeyay injineerada qaarkood way nagala qayb qaateen wayna nala sameeyeen runtii rajadan ka qabnay anoo kalsoonidan qabnay aad bay u sarreysaa cabsi badan nagama hayso in marnaba silted up uu noqon ama dhibaato kale si sameey ay ku iman karto dhinaca sand filterka caradan miyayna buuxsamaynta sida designka aad ku arkayseen caradii oo kala badh sifaysantay baa gelaysaa reserverka marka kala badh markay sifaysanto baran baa markaa waxa weeyaan reserverka uu sifeynaya bay ka dhigan tahay qaybta hore aad ku aragteen design soo cel guleedo qaybta hore ayay ku harayaan carada inteeda badan webi shabeellana waad ogtiin marka qaarkood 27% buu gaadhaa xilliyada guuga oo kale marka taas waxay keenaysaa in maad aragtay markaa uu buuxsan marka si taa looga taxadiro system gebigiisaba in hoosta biyuhu uu ka galo isagoo sifaysan oo biyuhu kala badh uu hoos u degay ayaa markaas la sameeyay qodob kale in ku daray waxa weeyaan meelahan aad aragteen waxa weeyaan dhul waxay ahaayeen ma garanaysaa biyo la'aantu biyaha jirayna ay dhanaan yihiin oo ceelo badan loo gaarin marka in biyo-gelintan la sameeyo iyo biyo-gelintan fiiq loo sameynayo waxay badbaadinaysaa xoolo dhaqatadii jirtay gobolka Nogob iyo gobolkan Shabeelle oo waxa weeyaan dadka inta badan wad aragteen waxay webiga u dhaadhacaan xilliyada ma garanaysaa abaaraha taasay badbaadinaysaa oo dadkii intaan soo dejinay ma intii kale xoolo dhaqatada ahayd nidaam lagu address gareynaya inay tahay in markaa qaabkaas loo fahmo marka xoolo overgrazing iyo waxyaalo badan bay badbaadinaysaa marka taas in qaabka loo fahmo ayaan kaabinayga kordhin lahaa waxa weeyaan horta mashaariicdan labadaba xagga kharashka xataa mustaqbalka hadduu diesel ahaan lahaa waxoogaa degmooyinka qaarkood sida u dhibo hadda mashruucan waxa weeyaan fulta oo kale waxa weeyaan xagga waxa weeyaan maadaama wixii shidaal uu yahay mar kasta dhibaato ka jirta yaan jeclahay kan laba arrimood buu faa'iiday labada mashruuca kan fiiq laylkii oo 24 hours soo galay goday lafteeda dee uu galay hadda maalmo dhow gudahood hadda waxa weeyaan isagana xariga laga jaraya waa mashruucii hydroelectric power guday 4 saac already uu dhamaaday waxa weeyaan 96% iyo waxa weeyaan yani already uu dhamaadana jeclaada hadda waxaan ka wada u fadhinaa goday in xariga laga jaro 24 hours marka kan mar hadduu 24 hours inuu jiro meeshii aan motor ka isticmaalayn labadaba fursad waxaan helaynaa in iyadana generatorka laga maamulo dee lead markaa mata qiimihiisu jaban yahay oo lagu xidho korontadii uu la geliyo marka taa labadaba ku xisaabtama arrinta ugu muhiimsan waayo shidaal waxaan biyahan inta huge ka aad ka u fara badan shidaal in lagu soo saaro waxa qul ma maadaama fursad haysano fiiq 24 hours ku jiro godayna 40 saac leedkii uu jiro in marka labada mashruucba isticmaalku ay noqdaan maxaan ku raraa korontada in hadda aad gashataan ba laga maarmaan ta kale mashruucan dhanaan sida uu sheegay injineerku waxa weeyaan rangeland badan baa dhanaan ay leedahay oo aad maxaan ku raraa u weyn rangelandigaasna biyaha in lagu talagalo dadka cabitaanka mooyee in lagu talagalo ta kale katal traafiyada ku xisaabtamay inuu hadda bitalo 25 inta u dhaxaysa laab ilaa dhanaan 25 katal traafman sameeyna waa tiraman jecel marka waxay ka dhigan tahay 25 tuulo oo u dhaxaysa dhanaan iyo laab marka lagu daro ceel weyn iyo waxa weeyaan beeracaan degmooyinka 25 tuulo ka faa'iideysanaysa oo beeshii xoolaha iyo dadku ay ka cabeen loo sameeynaya 25 iyada lafteeda ma 25 baan ku 25 meelood baan ku koobina mise mustaqbalka iyada lafteeda ku xisaabtaan meelaha la degan yahay mooyee meelo kale oo waxa weeyaan maxaan ku rahaayay water pointiya kale in la sameeyo qofku dadka inta u dhaxeeyay halkii saacba ama labadii saac ay looga yaabin biyo helaan xoolaha dadkiiba tayna maxaan ku rahaayay lafteeda
lagu xisaabtamo mataqaanaa waa laga maarmaan yani waxaan jeedaa inta udhexaysa dhanaan iyo laab mashruuci maadaama waxa weeyaan dee tuubagelintii ilaa intaas tuubadii la gelinayo in maxaan ku rahaa aan badino meelaha waterpointiyada iyo waxa weeyaan katartaraafyada laga sameynayo xoolaha dadka ka cabayaan tuulooyinka hadda jirin haddaan ku dhisaan garayno way noqon karaan 25 tuulooyin oo dhaxayso laakiin haddii aan dibadejinta lafteeda iyo maxaan ku rahay inooga qayb qaadanaysaa markii biyo la helo waa khasab dadkii way degayaan meelaha degan waxay ku sii degeen iminka intaas roobka ku sii degeen ba ka dhigantay iyo biyo kale minsi kale ay ku helayaan laakiin haddii waxa weeyaan hadda tusaale ahaan fartuun waxaan ka hadlaynay in inta mashruuca wadaan dabala biyaheeda la soo saaro oo waxa weeyaan banaanka aan dhigno dabala artani kale mooyee waxa weeyaan dee wadada qubi iyo ku taala wadada qubi iyo isku xidha hardhaga marka togo yareed ba ku taala saad waxa weeyaan socdaalkiina ku arkayseen dadku markay ay biyaha cabayaan dadka halka jooga waxay noo sheegeen inay ku rafaadaan oo ku dhinteen oo waxa weeyaan xoolo ay ku baabaan mashruucan waxaan garab wadi karnaa yaa isla qaadan hadda in si ku meel gaadha looga soo saaro waxa weeyaan dabala waxa weeyaan spring waterka ku jira in banaanka loo soo dhigo dadkii oo buurtan lagu dhaadhacayo inta mashruucan wadno in waxa weeyaan hadduu baato 6-7 kilomitir weeyaan inta biyihii waxa weeyaan generatorkii iyo nidaamkii loo soo sameeyo in la soo saaro deen wadada la keeno wadada waxa weeyaan waxaan ku raay dusheeda la keeno tuuladii maxay ahayd xalaguush tuulada xalaguush oo waxa weeyaan in la keeno marka waxay dhayn tuuladaas way abuurmaysaa marka taas marka waxaa lagu sameyn karaa muddo kooban isla qaadan hadduu baato waxa weeyaan maxaan ku raay 3 toddobaad 4 toddobaad waa lagu sameyn karaa for timing laakiin maxay noqonaysaa biyihii haddaan soo saarno aan keenno intaasoo kilomitir wadad biyihii buur hoostooda ku jiraan kor soo saarno wadada u keenno dadkii iyo xoolihii halkaas tuulay noqonaysaa mashruuciina waxa weeyaan waa wax muddo yar lagu kabayn karo saasoo kale marka waxaan ku rahaa tan horta taa la garab wado oo idinku fartuun iyo xafiiska biyo ay qorshaha ay ku dhaqsadaan si aan u tusno dadkii waxdii la arki karo rajo u gasho kaas muxuu muujinayaa mashruucan inta la wado rajadii way korba u sii kacaysaa ta kale dad baan ku badbaadinaynaa intaana sidan hadda la sheegay mashaariicdani waa mashaariic maxaan ku rahay muhiim oo waxa weeyaan aad in looga taxadaro baan xagga dhisaanka uun hadda wuu wanaagsan yahay laakiin haddana maxaa idiin soo bixi inta la wado percentage waxa weeye maxaan ku rahay waxdii fitam 100% adkaanaysaa in maxaan ku rahay uu noqdo mid markaa wadii dhibaato soo baxdo inta shaqada ku jirtaan wixii dhibaato soo baxdo immediately la bedeli karo waxa weeye maxaan ku rahay idinku aad bilow ilaa dhamaad aad kor taagnaataan konsantantaan iyo noqonaysaa saasay noqonaysaa laakiin design kaliya maxaan ku rahay ma waayo hadda waxa weeyaan as a theory waa practical marka aan u dhaqaaqno maybe isbedelo ma taqaanay ma kara meelaha nidi waxa weeyaan waxay hadda Google-ka aan ku aragnay ama kulli waxa laga engineer-ku inuu de Google-ka iyo nidaam iyo uu isticmaalay haddana maybe markii practical ay noqoto in waxa weeyaan isagoo la arkayo hadda aniga aan markii de aan eego fiiq iyo ilaa gasangas haddii la saaro buurtan fiiqeed oo aad u dheer haddii la saaro inay qulqul ku soconayaan biyo oo waxa weeyaan kala sareynta dhulka iyo gravity ku soconayaan waa wax maskaxda aqbali karayso maskaxad haddana laakiin in wax yar meel yar hakadin wadana uu galaan baasir marka waxay noqonaysaa in mashruuc aad loo dabahayo waa mashruucan waa kaas weeyaan iyo kan dabalo isagana systemkiisa inuu jiro iyo noqonaysaa ta kale mashruucan de biyaha kaliya ma matalan ba in biyaha laga cabo mehe in maxaan ku wax lagu beertana iyo noqonaysaa rangelandigi laftiisa de saad ugu sheegisan oo fiiqo kale waxa weeyaan maxaan ku rahay inta u dhaxaysa gasangas iyo waxa weeyaan duxooyin baa ku yaala iyo noqonaysaa marka inay noqonin cabitaan aan ugu talagelin maadaama haysanadii ay waxaan il natural oo soo baxay yihiin taas waa laga maarmaan oo rangelandigina waxa weeye maadaama dhul rangeland uu yahay in iyadana dhul beeradkaasna loo sameeyo kan lab waxaad ka dadaalaysaan waa intaad sheegtaan afarta waxa weeyaan inaad afar ka dhigtaan aad bay mataqaanaa ay u fiican tahay sababta waxa weeyaan 6 bilood maybe inta la hagaajiyay lafteedina isku soo gaareen laakiin hadda soo dhigteen way fiican tahay midda kale saas sheegteen mashaariicda hore sameeyeen dhibaatooyin ka soo baxay khibrad bay noo noqon saas sheegtay waxa weeyaan way dhib markaad intaad wax bilowdo dhibaato wax ka soo baxdo waxay noqonaysaa khibradii waxa weeyaan dhibkii shalay kugu dhacay inaad input ahaanta u adeegsato aad u bedelato wanaag bay noqonaysaa marka mashaariicda hadda jiray noocan la sameeyay
kuwan hadda aan samaynayna lamid horey loo sameeyey dhibaatadii leeyihiin kan inuu yeesho maaha uu kusoo noqdo marka waa taas weeyaan haddii ay jirto maxaan ku lahay kan miisaaniyadda haddaad miisaaniyadda ku darteen si aan estimation u qaadano waayo madaxweyne waad mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan laba arrimood aan clear ka dhigno waa midda koowaad ee 25ka water point iyo cattle trap intii dhammaan loo wada baahnaa maaha hadda dad degan oo goobo la degan yahayna maaha goobaha la degan yahay gaadhnay kama badnaa 5-6 meelood kama badnaa theory-ga aan isticmaalnay ku apply garayna wuxuu yahay 5 kilomitir ba qofka miyiga ku nool boolisiga hadda noo yaala 5 kilomitir radius inuu helo biyo nadiif ah tii marka 5 kilomitir oo meelaha criticalka laakiin still marka de mashruucu bilaabmo in dad badani ماشي لقصة يومي ولا سود جدونه وحقيقة شرطة تاسر وانكو حساب تبعنا براكتيكالي مركب مشروع على وضع ده هايلي بوبوليتر بين نقول هذا مشروع عن دتكو كوان فعيه كسكو دتك الدنيا ده حولها إنه لفت كده أياد وبدن أو ده حولها أياد وفر بدن أو وده حيسا أنت وده حيسا لابي أو دنا بكونول حطينا لفت كده جيل إيو مارتي لا فر بدن با إيريا ده بيكون شاي marka taas waa mid aan ku dari doono 25 ku fixed mahine mashruuc oo socda sida hadda ka dhacday birqad iyo goomaarinta u dhaxaysa qabalaha yar ka sameysmo kale water supply gaan uga sameynay system kuna taa uu saamaxaya meelo de hadhow toole laga jiidi karo water point yar laga sameyn karo kulliba system ahaan uu noogu jiraa qodobka kale waxa weeye guud ahaan mashaariicdan gaar ahaan mashruucan dhanaan oo kale in dhul aad u fara badan maadaama uu marayo rangelandiga 100% waa looga faa'iideysan karaa maxaa yeelay wixina waa biyihii webiga oo kolba inta anagu u baahana baahida biyeed in rabno waan ka feenina waan ka buuxsan karnaa marka maadaama oo biyo yar oo sidii springiga ama ceel la qoday inaga go'timaya maadaama ay ahayn rangelandiga in meelaha ku haboon intaanaan de applicationkiisi aanaan bilaabin ama fulitaankiisi waxa jira mashruuc aan kabinigana ka codsan lahayn kii hore sameynana in sidan oo kale looga dhageysto ka dambeyn wadnana aan brief garayno faafan iyo jarar study-giisi baan dhameynay haddana Shabeelle ayaan gacanta ku haynaa land use study-giisi oo ilaa 15 field oo kala duwan laga dirsayo maadaama area-daas marka ay ku jirto catchment-iga Shabeelle in aan meelaha rangelandiga ku haboon aan comment garayno aan design-ka ku darno waxaan kala madaxweyne aan rabaa inaan ka shaki tiro arrinta yani Google Map kaliya ma isticmaalno marka ugu horeysa layout-ka kaliya inaan ka eegno mooyaane surveying data baan qaadnaa hadda nasiib wanaag anaa la joogay labada goobood markay qaadayeen xagga laab intaan ka bilownay ilaa 18 kilomitir baan qaadanay xagga daraana intaan ka soo galay waxaan qaadanay 30 kilomitir laakiin in u dhaxayso aad dhul hawd ah ayaa xilliga in surveygiina de meel fogaan laga arki karin waqtigii aan haysanina de time aad u yar maadaama hore u keena nala yidhi labada dhinac oo maaragtay de muhiim noo ahayd ayaan surveygi ka soo qaadanay tani marka buurta la saaray biyo ka baxayaan haddii aanan xaqiijinin oo survey datageeda qaadin waa runoo de global maparku 0.025% kaliya meeshii ka yar dhaqaaqo ayaa waxa iyagoo dhan banaanka ka dhigaysa marka taayada survey datadii loo baahnaana waan haynaa resultigan iyo tuubooyinka size-kooda waxa soo saarayaaba waa survey datadii aan haynay laakiin inta imika u dhaxaysa labada goobadan sheegay mar aliya markay contractka saxeexaan enterprise-keenu ee goobtii la dego annaga shaqadan maalin walba qabanaynay kormeerka kasoko waxay noqon doontaa inaan surveygii dhammaystirano oo haddii systemkii de wax isbedela uu jirana ilaa 25% inaan hagaajino oo wax ka bedelo sharciga agreementiga de marka hore baan gelinay ku jirta iyaduna oo inaan ku darana waan karaynaa inaan meelaha qaar ka yarayna waan karaynaa meelaha riven crossing oo kale in design loo sameeyo birti laga dhigaa la kari marka fursadaas way noo banaantay aad iyo aad baad mahadsantiin miisaanada hulad mato hamsa ayaan ka dambe engineering estimation kii wayaan hal mar waxaan rabay study-ga hadda la sameynayo ee Shabeelle feasibility report-igi hadda ay soo gudbiyeen that means detailed report-igi iyo carada iyo qaaditaanka faafan already waan evaluate gareyna waan dhameystiray labada faafan upper faafan qaybta hore miyaa sameysay lower faafan waxaa sameysay qaybtan ilaa iyo gunagado qaybteena design-keena sameysay marka waxaan ku xijisiinay deegaanka oo dhan sidoo land use isku gaaro Shabeelle oo iyadana 2.2 million hectare oo soo gaaraya ilaa iyo dhagaxmadu area-diisa soo gaaraya
ilaa iyo magaranaysaa feerfeer iyo qalaafo marka waxaa la daraasaynayaa carrada iyo magaranaysaa iyo dhulka evaluation baa land evaluation baa la samaynayaa marka hadda arrintan hadda su-aashan aad weydiinayso ee rangelandiga ah waxay ka soo baxaysaa dhulka rangelandiga loo isticmaalayo iyo dhulka loo isticmaalayo magaranaysaa beeraha iyo dhulka loo isticmaalayo wildlife iyo dhulka loo isticmaalayo aan waxba aan loo isticmaalayna gabaahiirta waxay ka soo baxaysaa land evaluation ayagu hadda ay samaynayaan so marka waxa weeyaan water pointiga iyo water analysiska ay sameynayaan waxa ku xirnaanaya meelaha ayagu ay recommend gareeyaan in dhul badan laga sameeyo macnaha laga sameeyo water pointiyo fara badan meelaha rangelandigu aad u fara badan yahay in magaranaysaa la yiraahdo intaas water point ha lagu daro meelaha qaarkood inaan water point aan loo baahanin baa suuragal ah design ka ku jira sababta waxa weeyaan wax loo isticmaalo oo magaranaysaa ama manfaacada uu leeyahay habeeratii ma jiro beeriyo iyo magaranaysaa xoolaha uu leeyahay marka taas waxay ku xirnaanaysaa land evaluation kan inaan dadejino taasna marka cabinet-gu nala dhageysto waa muhiim underground waterka ma ku soo saarteen mataqaanaa land evaluation ka sameeyeen kan faafan iyo meelaha matalan ba faafanta sare iyo faafanta hoose sama iyo jarar maad ku soo saarteen hadda gacanta maad ku haysaan underground waterka ka jira inta aad sameeyeen meel kasta oo iyo waxa weeyaan source of meelihii mataqaan laga helay maadaama aad tagteen meelahaas ta kale tan inaad meesha goobteeda tagtaan aad bay fiican tahay waxa weeyaan ayaan una noqonin shaqada una noqonin inaad goobtii tagtaan aad bay fiican tahay marka tan hadday jirto haddayna sameysaan inaad waayahay mudan madaxweyne studygaan sameynay land use-ki borta potential water resource-ga ka jira areada wuu identify garaynaya oo image-ka satellite image-ka badanaa la isticmaalayay ayaa ah 50,000 oo scale ah marka scale-kaasi maadaama aad u fog yahay hadda wuxuu recommend garayn karaa meelaha water potentialka areadaas oo dhan leh hal qayba waxa ku jirtay geology and hydrogeology field ah hadda halka shaxda aan soo dhigay inaan maadaama aan documentiga haynin 15ka ugu horeeya maaragtay agroecology hydrogeology land evaluation forestry environment xitaa waxaan diyaarnay strategic environment assessment document land use planning intan socio-economic baa ku jira implementation guideline buu leeyahay livestock and range land managementigii buu leeyahay marka stadiyadani waxay madaxweyne recommend garaynayaan meesha imika potential intaa waxa weeyaan 1,400,000 oo hectar area laga sameeyay intaas meesha imika potentially water in laga baadho in laga helayo waa la recommend garan laakiin further detail study buu u baahan inta mitiru yahay biyuhu intay dhan yihiin iyo sida loo qodayo systemka loo qodayo design-kii loo sameeyo detail buu sii baahnaan laakiin intaas imika laga sameeyay meesha biyala meesha aan lahayn si cad waa u kala sheegi karnaa waan helaynaa iyadoo map ah on map garanay deegaankeena xitaa resource-ga ka bixi kara zaraca ka bixi kara aan soo map garayno weyn oo xafiiska la sudhana waan ku qorshe jirnaa waan soo sameynaa iyadoo waan keenaynaa fursadaan oo ka faa'iideysanay madaxweyne waxaan rabo kale inaan report yarkaas iyo marameed shalay bay tiimkii ka soo galeen oo ay ka yimaadeen runtii shaqo aad u fiicanna way ka soo qabteen 25 goobood bay ka baadheen biyo 25 goobood ay ka baadheen marameed burqayar intay ka bilaabeen ilaa marameed higleley erey la mid oo marameed 3 kilomitir goob higloley halkaas ayay 12 ceel oo ka mid ah ay ka baadheen waxay marka madaxweyne ay comment ahaan markaan shirka ka baxnay doorkii bay la soo hadlayeen ay noo sheegayeen in goob u jirta marameed 3 kilomitir kaliya oo dinaad aragtay laga yaabo ceel gacmeed dadku ay ka qoteen way baadheen 80 mitir kaliya ugu badnaan 110 ayaa biyo macaan laga gaadhaya biyuhuna way macaan weyna fiican yihiin kiibay hadda casing design-kii iyo hawshii loo baahnay halka la gelin lahaa ayay gacanta ku hayaan ay wadeen goobtii kale burqayar shalay reportigeeda ku siinayay in yar reportigii shalay sixitaan mar raba madaxweynaha ku sameeyo keesinadii iyo diyaargarowgii kale dhan way dhammaystireen in laakiin ay shaqadii bilaabaan yarkii maanta xaggan jigjiga u soo baxay marka berri markuu noqdo ayay haddii lahayd ma hawshaasina bilaabmaysaa oo mayna bilaabmin intaa waan saxaya madaxweyne laakiin areadan dhul aad u ballaadhan oo biyo badan leh oo maximum of marka xagga sare marameed goobtii aad noo sheegaysay la gaadhay iyada 80 mitir in biyo bad ah loogu tagaya ayay soo xaqiijiyeen marka biyuhu macaankooda iyo testigu siduu yahay iyo baaxadii leeglihiin wali analysis-kii bay gacanta ku hayaan oo mayna dhammaystirin waxaan isku ogaanay dad intaa hal ceel ka gaarsiisaan
intaan shirka ku jiro tagas igu soo dira si aan u report gareeyo weli laakiin war kamaan helin marka laakiin hawshaasi way noo qabsoontay runtii guul fiicanna way ka keeneen biyo sacabadaada lagom baxaa balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo beeraho israaciyo midnimadoonu baaqnaa balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo marmayd waxaa ka bilaabmaya foundationka waxa weeyaan shabeelle uu leeyahay ama nooca dhulka waxa weeyaan halkaasuu ka bilaabmaya burii baa halkaa ku istaagaya marmayd markaa taagan tahay burii faraha badnaa ee nogob aad soo haysay oo dhan wuxuu ku istaagayaa meesha la yidhaaho marmayd ayuu ku istaagaya halkaasu waxa weeyaan uu ka bilaabmaya rangeland weyn baa ka bilaabmaya halkaas ilaa firfir saasuu waxa weeyaan ku abuurmaya waa isku midun dhanaan laga bilaabaya ilaa iyo firfir ama ilaa shabeelle halkaas ka bilaabanaysaa waxa weeyaan dhulka isku nooca marka xilligan meesha soconay waxa weeyaan waxaan iska qaadanay meeshan in biyo laga helayo ahami fadhiya biyo la-aan erayga magaca habaar waalid waxa weeyaan waxaa loo yidhi waa biyo la-aan oo waxa weeyaan yani meesha waxa maraya un dee cid habaar waalid qabto ay ka dhigan tahay alashaan yani waa meel lagu baabay xagga biyo la-aanta magaca halkaasuu ka turjumaya marka hadda insha allah wuxuu noqon doonaa maxaan ku rahaa duco waalid sidan meeshan dalaymale oo kale uu noqon sida biyo male biyo male Soomaali biyo male ba hada yes exactly shinile sida hadda maqasha Cabdi sheegayo biyo dalaymale biyo male hadana waa biyo qaadaya shinile hadda waa biyo qaaday maamaha ma saka baxay maamaha dadku waxay ku salaysiin baraadka yani biyo male meeshii ma taqaanaa waxa weeyaan leeyahay hadda maanta shinile biyo qaadaya oo ilaa hadda waxa weeyaan Cabdi Xakiin wuxuu sheegay xadiidkii waxa weeyaan loo sameeyay shinile Djibouti xadiidkii la sameeyay China biyihii oo bada soo galay biyihii shinile ka soo baxay ilaa hadda wax qabta la oo biyo socda oo bada yaa galay marka bridge-kii sidii togiiba bridge-kiisa ka sameeyaan xadiidkii waa laga sameeyaa waana meesha shalay maxaan ku rahay biyan yani maamaada ka baxday maamaada halka shinile ka baxday biilaanta ku baxday yaa habar waalidna ma taqaanay waa isku mid ka dhigan tahay marka tan hadda hadii 80 mitir lagu gaariyo waxa la mid tahay shinile ka dhigan kalaftiisa saataan jeclaa inay artisan anu waxaan qabaa inay artisan noqon doonaan yani in biyo laga helay ma inay artisan noqdaan insha Allah taasan ana aaminsanay biyo helis kaliya ma aha biyo laga helay waa iska cad marka kaasna wuxuu noqonayaa dhul rangeland oo aad u weyn oo waxa dhul beereed aad u wanaagsan marmay ilaa dhanaan waa rangeland aad u yani dhul beereed waxaan jeedaa in dhul beereed aad u wanaagsan baa taqaanaa yaa ku jira xoolihiina daaqi iyo labada oo de waxa weeyaan yani daaqa ku yaalay waad arkaysiin markii aan tagnay aan waa sax weeyaan tan laakiin xogtaas oo dhameystiran baan u baahanahay waqti gaaban baan ugu baahanahay ta kale biyaha dhanaha in biyo macaan ay noqdaan baa yaa la baahan in biyo macaan ay noqdaan inkastoo biyo dhanaan iyo biyo macaan baan u baahanahay oo dadkeena hadda biyo dhanaan iyo biyo macaan u baahan laakiin haddana waxaa u baahanahay inay biyahaas biyo macaan noqdaan oo dee waxa weyn dadku cabiyaan macnaha inaad dhaaftaan biyaha dhanaha bal halkaaseed u aragtaa ma ilaa ileen shinile hadda tuulada shinile ka tirsan waxa weeyaan dhanaan ceelal baa ku yaala dee waaweyn ceelashaas waa dhane inayna noqonin kuwaas maxaa damaanada burqadar 100 ilaa 160 mitir waa dhanaan laakiin marka la dhaafo 160ka meel yar dhagax oo kala ah oo waxoogaa ayaa la dhaafi ilaa 250 biyo macaan baa ku jiro aad u badan waliba waa burqayar waa meeshaan leenahay marka in keesin xidhan la geliyo oo system fiican inta loo qodo in la dhaafo loo baahan yahay the time laakiin aan 160 ka dhaafno wixii ka dambeeya in ilaa 250 fresh water aad u fara badan loogu tagayo ayaa inamadu ay istadigareeyeen ama ay soo sameeyeen macal designkii bay soo sameeyeen tuubooyinka lagu qodayo size-koodu iyo noocoodu sidoo kale noqonayo iyo siday u kala yaraanayaan markaan ka tagnay goobtan aan hadda ku sheegaya labaad ee marmayd dhowrka kilomitir u jirta iyadoo almost all waa wada fresh water maaha wax dhana ah ma laha 80 ilaa 120 mitirna biyo fara badan in laga helayo
way haddii 80 la gaarsiiyo in hadda water supply fiican looga sii samayn karo haddii hoos loo sii wadana dee biyo ay kasii badanayaan taas iyada marka cabsi kama qabno xagga sare inay dhanaan yeeshaan xaggan soke oo biyo badan ayaa systemkii aan ku dhaafi lahayn hadda 165 kan mitir ee dhanaha ah ayaa in aad looga taxadiro in cidii drillingiga sameynaysa iyo inamada design-ka sameeyay inay wada jir saacad walbaba wixii la qabanayo hawl ay ka wada socdaan waana de hawl aan ku wada guuleysan karno oo dhammaantana magac iyo sumcad wada noqon karta kolleyba guushuna waxay timaadaa isku day badan markii la sameeyay laga dadaalo marka taa kolleyba xafiiska biyahana si wada jira waan uga shaqaynaynaa wixii nagala soo kordhana waan soo report gareynaa haddii la haydhaa ayaan anigu la hadlay waxay yidhahdeen marka waxaanu ku tijaabinaynaa sida shidaalka loo qodan karo qodan eelka marka horeysaba banadana ay leeyihiin macnaha in marka horeysa inta hore oo dhan inta la wada banado wixii ka hooseeya 150 iyo wixii ka hooseeyoon si caadi ah laf sax ay noqonaysaa marka easy bay noqonaysaa ay leeyihiin marka iyaga challenge waxa ku ah markii hore see loo dhaafiyaa biyahan inayna isku laaqmin labadan biyahan dhanaha iyo biyahan macaan ee hoosta jirayay see loo kala waxaynayaa ayay challenge marka tactic waxay keeneen in ma garanaysaa biyaha sida shidaalka loo qodo gabigiisaba dhulka inta la sii banado la sii maxay ahayd holaha hoosta la gaar wixii sida hadda dhulkan ma garanaysaa bariga ee la yiraahdo dhulkan ciida markii hore waxa la aaminsanaa inta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhana noqonaya waa la heli biyo laakiin dhana uu noqonaya biyihii dhanaha laftiisa ayaa laga waayay laakiin markii ugu dambeysay waxa la helay biyo ma garanaysaa fresh oo aad fresh oo ma garanaysaa kumanaan sano ka hor fariistay marka tan saas oo kale rajeynaa waxa xataa even ayagu isku xirayaan webigan socda iyo biyahan wadanka gudihiisa ka xagan Highlandiga ka socday in marka ugu dambeysay Red Sea hoosteeda ay macnaha ay ka kulmaan oo iyagoo fresh oo ma garanaysaa xataa even maalmahan waxay soo saareen daraasad biyahan abay isagoo fresh isagoo dhulka macnaha aan marin dhulka korkiisa aan marin inuu gaaro badda cas marka taasay theory-gaas marka iyaguna rabaan inay tijaabiyaan marka waxaan rajeynayaa in biyo fiican laga helayo mar hadii laga helay 600 mitir laga helay dhulka ciida halkaas sabab looga way karaa ma jiraan laakiin hadda koor waxa looga warwareegayay maadaama uu yahay dhulkaas dhul dhana oo limestone formation uu yahay biyo sacabadaada lagom baxa balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo beeraho israaciyo midnimadoonu baaqna balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo commitmentiga iyo waxay ku xiran tahay in kolka hore la qorsheysaa ka horeysa qorshe ku xaga ku aadan oo biyo raadina ma jirinba oo aan waxaan ku hadda de meel aan ka duulo xafiiska biyaha waxa weeyaan iyo meel hadda dhulkan marka hadda waxa weeyaan xalahan la wararna waxay ahayd in aan daweynaba tahay ilaa hadda waxa weeyaan daraasad dhulka hoostiisa biyo lagu sameeyo in yacni xukuumaddu waa ayna lahayn beel hadda ka hor taas warka waxa weeyaan waa dhibaatooyin hore aan dhigi karaa waxba hadda sheegitaankeeda faa'iido ma leh laakiin inagu inaan hadda aan ogaano meel kastoo deegaan ka mid ah xogtiisa inaan haynadii xilligan qodanayna biyaha inagoo miisaanadeena iyo awoodeena iyo waxayna ku xisaabsanaysa laakiin mid waa inaan heladii steerigii waa inoo yaalaa oo aan waxa weeyaan markaan meel hebla imisa biyaa lagaga gaadhi meel hebla biyo male aan baraa ka qodno waa noocaas waa inaan qaadan karna dee taas waa ina maxaan ku raaya aan sida ugu dhaqsaa badan loo helo tan aad haysaan hadda waxa weeyaan tan googolka waxa weeyaan sawiradan googolka aad haysaan maalintii dhida ka hadla inaad soo gadataan waxaan ku rahaa sawir cusub oo waxa weeyaan oo deegaanka dhana oo deegaanka dhana qayb kamid ah baa la hayaa deegaanka dhana la hayaa loo baahan yahay oo googol waliba mid casri hadda la qaado ku hadda oo kii hore hayna ku hadda ma taqaan la qaado iyo baanta waxa weeyaan aad gacanta lagu dhigo oo markii meeshii kasta oo loo baahdo aan jawaabteeda heli karno meeshaas biyo laga helaya intaas mitir baa lagu gaari meeshana biyo laga ma helayo waxay u baahan tahay ma taqaan alternative ama in webiga loo soo jiido wujra taanu sheegaya waxa weeyaan satellite image-ka biyaha satellite image-ka oo biyaha kaliya inaad samaystaan oo deegaankeena dhana tan hadda waxa weeyaan waan kala qaadanay Soomaa يعني تنا قعنتها كل جنوات قناة يعني satellite image بيها ديجان كانوا دن satellite image وحوي لما يسترن عن هلا وبيها كسبسن ماشي أنت سالك قاعد ماشي أنت دين وحويان مركا جولوجستي iyo waxa weeyaan
satellite maapkii oo la isku daray xaqiiqadii uu keeni karaa يعني إن هذا محن كلا جوليستون لادر وحويان ويسقوا ورك عرضي يدنامكي ودلكي وياقو وهكا شباب كسوسارو وحكى في عن لبضة satellite maapkii وحويان إمي satellite imagekii iyo isaga maskaxdiisii oo la isku daray in markaa wata qanay pointkii biyaha laga helay inta lagu gaadhay ay calaamad sanaato halkaana ay noo taalo kolkii miisaaniyad loo helay si ay kala horeyaan kala qabano dadna lagu dhaaqo meeshii wabi looga soo jiido u baahan ama maxaa ku raa biyo xireen loo sameeyo u baahan ama waxa weeyaan maxaa ku raa in baraag loo sameeyo u baahna si cad aan u dhigno dhammaan 68 degmo oo halka taala taas waa in la helo inaan kolba meel maxaa ku raa si nidaam dawladaysan ku shaqeynaa si qorsheysan oo cilmiyeysan in aan u shaqeynaa taa marka oo si degdeg ah ayaa la ka rabaa ka dhiganta هي سعبنا لغم بحا بلنتينو واشق بلنتينو واشق بيرهو إسرائيل من مدن فارا بلنتينو واشق بلنتينو واشق وكالة اسمها هولا بيا مشاريع فربان برنامتي عندك كويسة وسوجرة المشاريع ذا قضالك عيلش مشاريع ذا بيجلنت هي مشاريع ذا محايا هذه irrigation marka mashaariic maadaama ay fara badan yihiin waxaan xoog waxaan saarayaa gaar ahaan kuwa doqta xadarka soo gabagaboobay iyo kuwa iyaguna wax yarwarsan waa mashaariic horta hadda aan dhamaynay intaan mid laba ka taabteen u gudbaya marka kuwa mashaariicda daashin la ka socda runtii wax weeyaan mashaariicda waqti xadarkan hadda aan dhamaynay u baahan hadda marka in laga wareego oo marka ay qalin jabintoon sugaya waxa kamid ah mashruuca baka birqod goomar water supply mashruuca biigelinta baka birqod goomar مشروع ساكوكا رانتي مشروع سي وحويان سدحدا تونس كحريا باكو كبلاميا برقود الا غومر دركيسو وحو داينيا رانتي waa 60 كيلومتر dhamaan markii lagu daro maca distributionada marka magaalada dhexdeeda marka lagu daro waa 60 كيلومتر mashruucan saddex xaamood oo kala duwan buu leeyahay haanta koobaad waxay ku taala bakay ku taala waa 300 meter cube ee marka qaadaysa tan labaad ee برقود ku taala waxa weeyaan 200 meter cube haanta saddexaad waa ta goomar ku taala 100 meter cube oo biyo qaadaysa مشروعا sidoo kale wuxuu leeyahay goobaha dadku ay biyo ka cabaan ama water point oo 15 dhan sidoo kale wuxuu leeyahay 14 kaatil taraaf ama darka biyo xafiis laga maamulo mashruucan guudaan iyo far badan buu leeyahay waqti xadarkan statistics markaan soo dhigno raanti 100% u dhamaad mashruucan waqti xadarkan waa laga cabayaa baka waa laga cabayaa birqod waa laga cabayaa goomar waa laga cabayaa maanta mashruucan marka waxa weey miisaaniyada ku baxday waxa weeyaan 63 milyan baa ku baxday marka mashruucan waa mashaariicda hadda waqti xadarkan laga wareego marka qalin jabin aan diyaarnahay weyn mashruuca xiga waxaan mashruuca biyo gelinta ee gunagado runtii mashruucan dhererkiisu wuxuu dhan yahay laga bilaabo ceelka biyaha ilaa magaalada 15 kilometer maca distributionka marka la isku daro 8 kilometer oo ah ceelka biyaha ilaa magaalada reservoirkiisa gaarsiinaysa iyo inta kale oo marka distributionka hal han biyo marka uu leeyahay oo 300 meter cube oo magaalada xigta ku taalo sidoo kale water point-yada ama goobaha dadku biyo ka cabaan waa 12 cattle traffic ama waxa weeyaan darka biyo xoolaha ka cabaan waa 4 sidoo kale xafiis laga maamulo leeyahay mashruucan markaas aguna oo dhameystirmay waqti xadarkan mashruucan 100% u dhameystirmay biyina waa laga cabayaa markaas aguna waa mashaariic hadda u baahan waqti xadarkan laga wareego marka aan qalin jabinta marka diyaar ka waa budget ku baxay guudaan waxa weeyaan 17 milyan mashruuca saddexaad waa harawi water supply مشروعنا وحويان مشاريع وقت هذا كان بقولك بقولنا مايستري ديار كوا إن اللي وريجو مشروع عند ركيسو 16 كيلومتر وحويان مقالة هروي يصدح جو لما جو بعض كلا وحويان لو تلاقى هذا تولين عصوبة دبدجي لو تلاقى لين صدح ريزرفير بوله أو من بقول متر كيوب متر كستقارية قارن وحكي يدوين كواني وإليفيتد لكم هذا مسمين أو بور للسران لهين هامها بيو مركب حلو سمي لغة دير بالله سمينا مركا والليفيتر كربو كحسين مركا الليفيشن كم هذا مسكودا من نقطة كرب اللغة ديا شن ووتر بوينت وله أما جوابها بيا لعبه يا شن كاتل تراف أما جوابها مركا حوله بيا كعبان وقت هذا كان مشروع عن بقول كبقول واسوق بجبينه وانا مني هذا نو لعب بيا مركا مشروع عنا ومشاريع وقت هذا كنا لقى ورقة ديار كارنا هاي ميزانية دكتور بحذي ولبات مليون واحد بدمية مشروع حاجة وجدني ووتر سبلاي بروجكت رانتي مشروعا ومشاريع ذا سوونا لقى ورقة بان
واي لبدي مشروع هore waxay ahayn gobolka Jarar baahan mashruucan hadda Harawi water supply iyo aan leeyahay jeedina aan leeyahay wax weyn mashaariicda gobolka Shinile gaaraan waa kuwa biyo gelinta weyn mashruuci koobaad waa kan Harawi hadaan soo sheegay waxa weeyaan Harawi ku yaala waa city degmada Shinile jeedina waxa weeyaan isaguna waa mashaariicda biyo gelinta degmada Shinile runtii mashaariicdan iyagana waa waxaan mashruuc kooban waxaan mashruucan muddo dheer buu soo jiitamay laakiin in halka soo gaadhaan maan sababta on spot weey har reserve kaliya distance-giisu aad buu yaraa laakiin maadaama marka awood xoog badan la saarin waxaan muddo dheer buu soo jiitamay xitaa mashaariicii waaweynaa buu la soo abtirsaday marka waxaan har reserve kaliya elevator 150 meter cube qaadi u leeyahay distance-giisu waa 2 kilometer maca distribution-giisu marka waa meel aad yar on spot water supply weeyaan laba water point iyo laba cattle traffic buu leeyahay waqti xaadirka 98% uu soo gabagaboway ceelkii yaa marka waxyaaba dib ku jiro waxa kamid ah ceelka meel laga bedelay xadiidkii maadaama maray ceel la bilaabay horaa la bedelay meel kale laga ceelkii mar labaad baan qodnay marka taas hadii uu dhacay marka waqti xaadirkan wuxuu sugayaan bamkii generatorkii buu sugayay mashaariic iyaguna 100% aan dhameynay waxa kamid ah mashruuca dambal ay shacada wan leh oo qaybta labaad qaybta koobaad waa Oromia qaybta gacanta ku hayso qaybta labaad daartu loo yaqaano waa mashaariic anaga gacanta ku hayno 100% soo gabagaynay balse aan tijaabinin sababtan loo tijaabin waa maxay mashaariicna waa mashaariic isku xidhan daar 1 2 3 saddex waa mashaariic noocaas oo kala soo xidhan dambal ashca dawal weeyaan mashruucan runtii waxa weeyaan 142 kilomitir weyn dhererkiisu wax soconaya wuxuu leeyahay reservoirada ama haamaha biyaha oo 7 dhan water point-yada ama goobaha dadka loogu talagalay biyaha ka cabaan oo 35 dhan cattle traffic ama goobaha xoolaha loogu talagalay maadaama rangeland ay kamid tahay oo biyo gelinta dadka kaliya tahay macal xoolaha loogu talagalay 7 water point buu leeyahay mashruucan 100% waan soo gabagabeynay miisaaniyada ku baxdayna waa 71 milyan lacag ka badan balse laakiin mashruucan ma wareejin kareyna sababtoo maana test gareyna waxa weyn qaybtii u dambeeyay testigan waran biyihii waa inay soo maraan marka koobaad daarwan waa inay soo maraan oo anagu aan gacanta ku hayn daarwan 100% marka la test gareey daartu yimaadin ma anagu test gareyn karaa laakiin maadaama biyina soo gaadhaan anagu wax ka soo dhameystiray laakiin marka hadda heerkaas ay marayaan mashruuca daarsri waxa weeyaan qaybta ku sii xigtay iyaduna maxay dambal ashcada walle daarsri water supply mashruucan waxa weeyaan dhererkiisu 104 kilometer oo dhererka oo marka transmission line kaasa iyo 25 kilometer distribution magaalada dhexdeeda qaybinta magaalada content water point 20 cattle traffic iyo 8 reservoir buu leeyahay runtii mashaariicdan waa mashaariic aad u waaweyn weeyaan waqti xaadirkan mashruucan waxa weeyaan statuskiisu wuxuu maraa 90% DCI-ga naga dahayd laakiin waqti haadirkan DCI-gu na soo gaaray qaybtii 36 kilometer kaliya tahay DCI-gu marka intiisii badneed waa dhignay marka DCI-ga dhamaystirka noo haray marka 90% buu marayaa miisaaniyada ku baxdayna waxa weyn 153 milyan lacag ka badan wax ku baxay mashaariicda faafan water supply waa gobolka faafan marka mashaariicda waxa weeyaan gobolka faafan laga wado waxa weeyaan waa saddexda mashruucda tiqdam loo yaqaano waa 9.3 kilometer mashruuca kale waa gabagabo xaadow oo 33 kilometer mashruuca ku bijaara qudacmataan loo yaqaan isaguna waxa weeyaan 32 kilometer runtii saddexdan mashruuc waxa weeyaan mashaariic waqti xaadirkan 80% maraya waxa weeyaan project-yaashii u dambeeyay hadda marka aan qaadanay soo gaarnay waxa weeyaan dhawaanta la qaatay sida mashaariicdan kale hadda gobolka City ka socda mashaariic raagay maahan muddo dhow la qaatay laakiin waqti xaadirkan intoodii badna shaqada waa dhameystiray DCI-gina uu noo yimid marka qaybta waxyaabaha raaji waxay kamid tahay DCI sababtoo qayb DCI uu leeyahay mashruucan isaguna DCI maadaama la keenay DCI doo socda qaybta xigta waxa weeyaan hadda waa electromechanical-kina waan dalabnay marka waxa weeyaan electromechanical-ka intuu maqan yahay waa inta DCI uga dhamaanayso marka 80% iyo mashruuc maraya waa mashaariic kulli aan gacanta inta ku dhinac u dambeysay weeyaan mashaariic cusub weeyaan mashruucan soo xarshin on spot water supply project runtii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc biyo ma mashaariicda waxa weeyaan test well kama biyo qodaalka ceelasha maxay tijaabada 6 ceel bay ahayn xarshin iyo area-gan East Region Daratoole marka waxaan mashaariicdan runtii waxa weeyaan waa mashaariic muhiim ah oo runtii oo aad iyo aad ugu muhiim ah sababtoo ah gaarka biyo laga meelay hadda kor xarshin Daratoole gaashamo iyo caale qaybta 6 ceel oo test well marka mashruucan ku qaadanay mashaariicdaas runtii waxa weeyaan ceelasha koowan bilan waxay ahayn mashruucan xarshin ceelashan waxa weeyaan debsigooda waxa loogu talagalay in la qodo 600 mitir sababtoo biyo meel laga gaari maayo ku
kulli waad la socotiin riigagii Talyaani laga soo iibiyey ridda dheer qodaya markaa ayaa ku jiray muddo dheer bay ku jireen gaar ahaan riiga G45 la yiraahdo ku jiray runtii laakiin waan ku guuleysanay mashruucana waan ku guuleysanay bankiga generatorka waan u keenay discharge-giisa markaa ama yellow soo saar la ceelku waa 5 liter per second maadaama biyo fiican oo macaan oo badan laga helay ceelashan markaa waxaan sameynay biyo inay xidhnaadaan ceelashu ma awaamir markaa xukuumaduna siisay markaa waxaan qaadanay inaan biyaha laga faa'iideysto ilaa biyo gelinta inta la sameynayo magaalada loo gelinayo oo sida ceelka dusheeda looga faa'iideysto marka waxaan sameynay on spot water supplies laalkaas inaan 2 cattle trough iyo 2 water point inaan dhigno rootaan dhigno isla markaan dadku faa'iideystaan iyo sidoo kale inay booydo ay ka dhaamiyaan aan sameynay waxa weeyaan hadda muddo 2 toddobaad waa laga cabaa ceelkan designkii kale muxuu ahaa biyo gelinta magaalada lagu socdaa qaybtan designkeenna markaa ayaa wada way soo gabagabeen baan filayaa markaa muddo dhow waan kii caadiga biyo gelinta caadiga aan galinaa laakiin se waxa weeyaan si degdeg ah maadaama kana dadka hadda way isticmaalaan oo ceelka ma xidhna runtii inkastoo presentation-kooda waxa weeyaan ceelasha ku xiga yoo kale almost 100% waan mobilize gareeno hadda waxa weeyaan toddobaadka dhexdaan bilownaan leenahay sababta maadaama isku mashruuc ay yihiin mashaariicda maartay ceelasha dhaadheer 600 mitir la qodayo marka mashaariicdana waxa weeyaan waa mashaariicda hadda nagu xigta gaashaamo iyo maxay ahayd yoo cala hadaan galayna qaybta markaan soo irrigationka markaan soo ama waraabka runtii qaybtan irrigationka ama waraabka guday 2 mashruuc bay ahayn mid waxa weeyaan mashruuca carraqaaytaanka kanaalkii weynahay guday mashruuca waqti hadarkan 100% waan soo gabagabeynay marka hadda waxa weeyaan qaybtii design-ka ayaa dabagalada ku hayso marka waxa weeyaan almost intii badneed way wada fiiriyeen wax nagu waarsan ma jirno franka qaadnay laakiin testigii bay wadaan markii laga loo wareegayeen kala marka checking bay wadaan lacagta ku baxdeen runtii waa 9 milyan lacag ka badan qaybta kale xigta waxa weeyaan qaybta farm systemka ama dhul beereedkan dayactir kanaalada dhul beereedkan dayactir lagu sameeyo qaybtaas waxay ka koobnayd 4 kanaal bay ka koobnayd oo ka soo weecda kanaalka weyn 3 kanaal waan dhamaystiray kanaalkii u dheeraa Harbaris imanayay aan runtii hadda gacanta ku haynaa shaqadiisa socotaa kaasoo inta badan ay biyo meel kale kaga yimaadeen oo inta badan maartay ay jabiyaan qaybtaas gacanta ku haynaa mashruucana 90% hadda waa gabagabo weyn marka waxaan waa sawradii hadda kani waa Goomar weyn reservoirkii Goomar weyn kani hadda kan waa laga cabeeyaa kana waxa weeyaan ma birqod weyn okay tawa guday marka waxaan carraqaaytaankii markaan kanaalka weyn aan ku sameeyay weyn kanaalkan hadda waqti xadarkan 100% aan soo gabagabeynay carraqaaytaanka markii la sameeyay weyn iyo compactionkii ama marka rooladu ay sameeyaan mashruucan waxa weeyaan carraqaaytaankii main kanaalka way runtii waxa weeyaan mashruucan carraqaaytaanka kanaalka guday wuxuu ahaa 13 kilometer carro fara badan oo gasho silt fara badan buu leeyahay sababtoo maadaama ay muddo dheer aan la isticmaalin silta aad fara badan oo almost u baabaasana baa la oran karaa markaan waan bilaabeynay oo ma muuqan kanaalka hadda waxa weeyaan debsiga inta leeg marka waxay muddo dheer bay qaatay runtii excavator iyo machinery fara badan iyo awood fara badan engineer fara badan soo geynay lamana aaminsaneen runtii inaan qaabkan oo kala dhameystirayno marka hore marka aan mashruucna la gelin laakiin waqti xadarkan waxaan mashruuci 100% uu soo gabagaboobay oo waxa weeyaan hadda anagu waxa weeyaan waan gudbinay engineeradii consultantiga waan gudbinay in la kala wareego iyaguna marka checking bay wadaan wax shaqo marka anagu waarsan ma jirto kan waxa weeyaan qaybtan xagan Harbaris soo kacda primary canal waa kanaalka koobaad ee soo kaca ee main canalka ka soo baxa ee qaybtan xagan Harbaris soo kaca waa markii clearance-ga lagu sameeyay qaybtan dalka muuqatay qaybtan waa clearance waa geedihii waxyaabo marka laga dulqaaday qaybtan hadda wax yar ku noqdo waxa weeyaan waqti hadarkan waxa jirta maxay 3 kanaal waa waxa weeyaan dadku ka faa'iideysanayaan primary canal 1 2 iyo 3 oo kanaalka muhiimka ka soo baxaysa main kanaalku mashruuc gooni waa saw mashruuca xiga waxa dayactirka kanaalada yar yar ee main kanaal ka soo baxaya si dadku ay uga faa'iideystaan 3 kanaal waa laga faa'iideysanaa waqti hadarkan macnaha waa maxay dadkii wax weeyaan beeri way qoteen biyaan lagu soo daayeen baan marka maadaama la fasaxin biyaan baan lagu soo daayeen laakiin waxa weeyaan 3 kanaal way dhameystireen dadkii beerihii way qoteen
hawshina markaa way dhammaystiran tahay hal kanaal oo markaa aad u dheer oo 16 kilomitir oo Harbaris kan soo kaca yaan hadda shaqaysi wadna isagana muddo kooban ku soo gabagabeynayna qaybtani waxa weeyaan xagga dhinaca qodaalka ceelasha runta 40 ceel hare weeyaan ceelashan runta waxa weeyaan waan dhamaystir hore baa loo dhamaystiray waqti xaadirkana waxa weeyaan waa mashaariicda hadda in laga faa'iideysto bamkii generatorada inta la saaray mashaariicdan biyo maxay irrigationkii hare looga faa'iideysanay weeyaan marka iyaga way dhamaystiran yihiin laba ceel baan ugu harsanaa barigii kuwaan hadda waan bilownay muddo 15 cishan ku soo gabagabeynaa riiga G25 leeyahay kuwa Talyaaniga laga soo iibiyay waxa jirta dhexdaana ku xumaaday wax ka xumaadeen marka spare part-ga muddo dheer raagay laakiin Talyaaniga markaan diro waan loo keenay hadda laakiin labadii ceel waan bilownay labada ceel oo markaa muddo soo jiitamo markaa masjid lagu dhiganayo markaa boqolki annagu 20 baan qodnay markii markaa hadda labadan lagu 18 baan qodnay niton dhamaystiray labadii kale hadda wadnaa marka mashruuca asalkaas ku dhamaanay labada ceel baan ugu harsan kan waa reservoirkii burqad weyn oo markaa biyaha runtii mashaariicda documentary aan soo update gareynaa team baan diro documentary film baan kulliye ka wadnaa maadaama hadda ka tarafiyada water point toos looga cabiyo kuna waa muddo test gaan wadnay aan tijaabinaynay hadda laakiin mashaariicdan soo sheegay dhamaan iyagoo dhammaystiran baan markaa documentary film baan soo gudbinaynaa oo dadka shacabka ka cabayeen ka faa'iideysanayaan markii iyadoo kooban markaa qaabkaas soo dhigay waxaan maxamed aan ugu dari lahaa kanaalkan markii la hagaajinayay waa beerka sariya gudihiisa sawiradan kale laakiin ku xigay markii meesha loo qabanayay ama la design garanayay wax maaragtay bush clearing oo miisaaniyad loo qabtay meel jiro assumption-ka wuxuu ahaa maadaama dhul la isticmaalay yahay wax geedii kuma yaalaan laakiin practically markuu enterprise-ku uu shaqada galay waxyaabaha mashruuca xilligii loogu talagalay inuu dhamaanin ama delay kane ayay ka mid tahay geedad ay salkoodu inta la leeyihiin ama aad u waaweyn ayaa meesha ku yilay marka bush clearing-ga laftigiisa baa muddo xilligii qorshaha loogu talagalay xilli aan ahayn qaatay inay ku clear gareeyaan maxamed sidoo sheegay warintii mashaariicdani iyagu intay gacanta ku hayeen hadda waa ka gabagabo oo kan oo kale xilli hore u dhamaaday waxaa lagu wadaa laakiin beerka in uu yahay levelkii loogu talagalay namadii maalin walbaba qayb bay isla cabraan inta wixii cabirkoodu dhamaado dee okeeda la wixii wax ka dhiman yihiin inta yar hagaajiya baa leeyahay marka maxamedii shaqadii weyneed maadaama ka dhamaatay iyaga 100% bay xaggooda hadda ay qorshaysanayaan laakiin waxoogaa sixitaani wuu ku iman karaa oo still in 98 meelaha uu noqdo marka sixitaanka boqolkiiba la dhameeyo baa 100% aan dhihi karnaa ta kale xigta waxa weeye shaqadoodu si fiican bay wadaan farm systemkii 40,000 hektar ee loogu talagalay inay hagaajiyaan ama ay wax ka qabtaan shaqadoodii si fiican bay wadaan laakiin in 40,000 hektar laga wada cabo ama laga faa'iideysto madaxweyne hal arrin oo caqabad weyn ayaa jirta main kanaalka weyn ee aragnay qaybta electromechanical-ka headwork ku taala ayaa muhiim u ah saddex qandaraas oo kala duwan way ahaayeen ka koobaad 13 kilomitir carqaadkiisa iyo dib u hagaajintiisa 400 hektar diyaarintiisa iyo tog laba togo gila iyo gabra oo ka soo rogmada korka sare oo kanaalka waxyeeleynay in maaragtay flood protection loo sameeyo ka sameyntiisuna runtii arrin aad u dhib badan weeyaan oo meesha Harbaris degan tahay dhinacii la marin lahaana buur baa ku taala marka in the system waara oo kama dambayna loo sameeyo still data naga maqan oo gacanta lagu hayo la wada ayaa jirta laakiin waa mid ay hawsheedii iyagu qaybtii kaga adeegay ay si fiican wadaan taadaba waxa oo dhan madaxweyne aqabada ku noqonaysa macal dadka hadda beertii qotay ayna uga faa'iideysan karin meesha taal waxa weeyaan qaybtii electromechanical ilaa hadda Swiss gate-ka dhoobada ay xidhay ilaa intii meesha la sameeyayba aan la furin ee aqabadu ka imanaysay capacity lagu furo lama helin crane aad u weyn oo aad u awood badan ayuu u baahan yahay in albaabka la furo laga shaqaysiyo shaqadan hadda qabano waa markii labaad mise saddexaad ee la dayactiray hadaan qaldaneen main kanaalka haddaan albaabka hadda la hagaajinina sanad gudaheed dayactirkan mid leeg u baahan doona in marka isagoonaan arrinta electromechanical-ka mudan madaxweyne aan xal waara laga gaarin oo Swiss gate-ka system wala lagu furo inta la furo aan laga shaqaysiinin dadkii haddii aan baahidoodii kaliya intaan igna raano maaragtay maantana ka faa'iideysan berri baa la hagaajinay biyaha la sii daayo biyo waa la sii dayn karaa dadkina way ka faa'iideysan karaan laakiin marka u badato sanad iyo 6 bilood dhoobada carradii buuxisay haddana way buuxin doontaa iyaga annaga waa supervision oo daba galna warqad inaan ka qorna ayaan gaarnay cabdiwaabna kulli baa inta uu ogyahay
laba jeer bay yimaadeen labada jeer ba isku day in saliid ay marmariyaan iyo albaabado si ku meel gaar loo furo oo even systemkii hore furaya electromechanical la isticmaalinay kaawo inta lagu xidho kor loo jiido taasna haddii madaxweyne xitaa lacagtii hag gasho halkaas ay noqoto in ay xallin kari waayaan inaan u helo irrigation canal waa wax aad u capacity badan dhul badanna looga faa'iideysan karo xal kaloo waara inaan u raadinaa laga maarmaan ah mashaariicda hadda uu soo laga soo jeedinay gaar ahaan harawa waxay ahayd water supply uu dhamaaday socdaalka ugu dambeeyay aniga cabdixakiim iyo cabdiwahaab ku tagnayna waa laga faa'iideysanay laakiin shacabku waxay sheegayeen dhibaatooyin ah inay biyihii meelo tuumbooyinka iyo systemka ay ka daadinayaan ay dhibaato ay ka jirto taas hal bay ahayd ta kale labaad waxa weeyeen jeedane waa hal ceel oo kaliyaatay muddo fara badan waxa weeyeen waa 3 sano 4 sano oo qaatay mashruucan sidoo sheegay oo mashruuc weyn mushkil oo hal ceel buu ahaa oo on the spot looga faa'iideysanayo kolka discharge-ga waa 5 mitir waa 5 liter per second ceelkan jeedane oo biyaha laga helay intuu la egyahay maadaama uu dirra u dhow yahay maxay ahayd dadku waxay lahaayeen biyihiisu aad buu u waxaysan yahay ta kale ugu muhiimsan hadda dhibaatooyinka fara badan ee gaar ahaan macal metekna ay xaggeena usoo weecinaysay ceelashii la qoday lama teesti garin 5 ceel oo kamid ah kolkii la eegay 3 baa xumaatay oo ma xumaanay waxa weeyeen systemkii in la teesti garay problem baa ka yimid taas in haddana dib loo sameeyo waxay qaadanaysa waqti badan metekna waxay lahayn anagu waan dhamaystirnay oo waxyaabihii irrigation lagu sameeyay oo dhan waan dhamaystirnay laakiin problemkan haysto waxa weeyeen waa kooraanka iyo ceelashan oo waxa weeyeen la teesti gareyn oo aan laga faa'iideysan karin taasna mustaqbalka waxa weeyeen maadaama shacabku hadda diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto mashruuca dhibaatadana waxa weeyeen waxa loo soo xaggeena ayaa loo soo weecinayo oo shirkadeena bay u soo weecinayeen ceelashii hadda lama teesti gareyn ceelashii waxa weeyeen mid waxba ku xumaaday maxay ahayd ceelal la teesti gareyna kooraanka iyo bamkii lama gelin karayo ayay ahayd kolka taas in bal sayd ceelasha harawa 20ka ay shirkadu qaadatay waxaa ka hor dhameysay shirkadii ka dambeysay rabax labadan ceella mar horena waa la soo dhigay inaan la qodin marka ilaa imika gaab badan baa ka jira goorma dhameynaysaan haddii ay labadan ceel qiimeyntii horena waa way taagnaayeen ceelkan kale jeedana sidaa uu sheegay waa 2 kilomitir uu yaraa 98 ka buu marayay markii hore aan qiimeyntan aan hore aan joognay marka isagana goorma laga farxlano la dhameynayo maasanti okay waa saxway sida iyadoo su'aalaha yihiin mashaariicdan maxaan ku raayay mashruucan isku xiran ee leedahay dhaar 1 iyo dhaar 2 dambal ay shaaca koobaad iyo dambal ay shaacada labaad iyo dambal ay shaacada saddexaad ayay noqonaysaa marka haddii dambal ay shaacada koobaad oo 147 kilomitir sama 104 kilomitir dambal ay shaacada labaad 147 waa ka labaad kaas waa ka gacanta ku haysan wada dhameysay saas sheegay laakiin tijaabadiisu wuxuu kaleeyahay dambal ay shaacada koobaad isagu halkuu marayaa waa mataqaanaa taala marka ha hayso laakiin waxa weeyaan maxad ku ogtiin maaha waa inay waxa weeyaan cidii khusaysa soo dhigtay waxa weeyaan halkay maraysa mashruucaas maadaama mashruucada isku xiran yihiin mar haddii dambal ay shaaca waxa weeyaan oo 147 kilomitir oo dhamaaday haddana dambal ay shaaca tiri oo 104 kilomitir oo uu 80% marayo labadii mashruuc waxa labada mashruucba mid 104 kilomitir iyo mid waxa weeyaan 147 kilomitir oo dhamaaday iyo mid kana waxa weeyaan 80% maraya kan 80% maraya goor buu dhamaanaya oo waxa weeyaan isaga goor baad ka farxaanaysan kan dhaadhuwan kan laftiisa hadduu dhamaaday mashruuca in dadkii inay ka cabaan baa loo baahan yahay mashaariicdan gobolka shiinayna waxa weeyaan muddan gacanta ku hayna hadda waa inay waxa weeye maxaan ku raayay dadkii ay wax la taaban karaya cabaan oo la arko waxa weeye maxaan ku raayay marka ilaa iyo qiimeyntii horena waxa weeye maxaan ku raayay xilli mu dhamaanaya aan baalaynahay marka Aisha dhaarwankan ay dambal Aisha dawan leh oo ka koobada kaas baa baa muhiimad kaas ku xiran tahay already dambal Aisha saddexaad oo 140 kilomitir
bal waxa weeye maxaan ku rahay inta 80% waa laga xiri karaa intuu ka dhamaanayo laakiin hadduu dambalay shacabka koobaad u dhamaado waxaa ka dhigan tahay mashruucan functional buu noqon dambalay shacada labaad 140 kilomitir marka kan muhiimadu kana tahay kan marka in aad u qiimeeyo noqonaysa furaha mashruucan waxa weeyaan isku geyn mashruucan waa 5 kilomitir mu noqonaya 140 kilomitir 403 kilomitir marka 403 kilomitir baa inaga xiran mashruucan dhul 403 kilomitir oo gobolka Shinila oo waxa weeyaan every 5 kilomitir waxa weey waxaan ku raayay meesha dadkii xoolaha ka cabeen 400 kilomitir mashruucan markuu dhamaado waxa ka dhigan tahay gobolka ama deegaankaas waxa weeyaan wuxuu ka qalin jibinaya maxaan ku raayay gaajada iyo ka qalin jibinaya ka dhigan tahay 400 kilomitir oo tuubo dhulka ku aasan oo biyihii ay socdaan maaha ma taqaanaa caadi ma marka 400 kilomitir dee waa inaan hadda waxa weeyaan ay dhamaadaan muddo badan oo leenahay berri way dhamaan saada may dhamaanayaan dadkiina rajadii baa waxa weeye maxaan ku raayay waxa weeyaan waxay bagugutnay tabaqo yaalada waxa weeyaan rajadii ma axaan ku rahaa ina qonaysa su'aalaha imanaya waxaan ku rahay 10 kun oo qoys ama 8 kun oo qoys maxaan ku rahay ma helayna oo dagaya biyaha hadaan helo biyaan 400 biyaan markay dhamaadaan dad waa la heli oo rajadii maxaan ku rahay ay arkaan dadkii biyo socdo la cabayaysan laakiin mashruucan haduu dhamaan ma hadli karnaa marka balatan shirkadda ma taqaanay Oromia gacanta ku haysa maxay leedahay madaxna wad maasantahay mashruucan daadwan saddex 54 kilomitir weeyaan lacag ilaa 54 milyan oo ka badan tahay inta ku baxday marka mashaariicdii soo jiintay may kamid ahay abuu mashruucan kamid yahay xilligii ugu dambeysay in dardarta gelinay ma garanaysaa go'aanka ka gaarnay inaanu termination ku sameeyno shirkadda Oromia waa kuwii dhamaantood intay soo wada gurteen macallimiinadooda waxa dhan ay soo degeen Shinile oo ay test ku wada sameeyeen marka mashruucan test baa lagu bilaabay yani inay tijaabiyaan reserverka kaga bilow ilaa iyo systemka gudihiisa in la test gareeyo ay sameeyeen laakiin waxa ku soo baxay leakage ida ka fara badan ugu yaraan 13 meelood baa ma garanaysaa leakage yeeshay marka 13 meelood inay ma garanaysaa sameeyaan iyagoo ku maqan iyo haddana systemkooda wad garanaysaa nidaam kulli maamul dhibaato la xiriirta maamulka suuban weeyaan ayaa maxay ahayd dadkii meesha ka shaqeynay oo dhan baa la wada caydiyay marka maalin dhow shalay ma hadaraad baan malaynayaa ayuu ristu naadreed kula kulmay maamulkooda in ma garanaysaa dib haddana ay u soo abaabulan doonaan oo dib ay u soo noqon doonaan marka waxa kaliya maaha waxa kaloo jira dhibaatada ma garanaysaa hal ceel oo meesha la yiraahdo laas xaraad oo inay ka soo saaraan ay damceen oo dadka hor biyaha ka cabiyeen intuu huure yeeshay يعني ما garanaysa huur ceelku inta badan markuu shaqeeyo huur yeesha markii ay ka soo saareen bamka ku dhaxdhacay ilaa hadda iibkiisi waxa weeyaan iyadana waa hal bam oo yar oo ma garanaysa suuqa laga heli karo marka bureaucracy-googu maadaama nooca uu yahay waxa weeyaan shirkad jiidita in badan ma garanaysa aga jiidan keentay mashaariicda gacanta ku hayeen oo dhan intooda badan waa wax wada gabagaba laakiin functionality-googa ay dhibaato ka taagan tahay marka taas waxay noqonaysaa inaanu kala hadalno cidii ma garanaysaa gacanta ku haysay maamulkooda gaar ahaan maamulka ana waxay la qaban intaan iska deeyno inaan la hadalno deegaan ahaan oo la hadalno deegaanka Oromia maamulkooda aan la hadalno gaar ahaan madaxweynahooda saasaan ila qoylay qanooyi waa sax way salaadii ugu dhow mashruucan horta dad maxamed cabdilaahi tan dad tuugan iyo 3 oo dhamaadkiisa wax faa'iido maxaan ku raa leeyahay ma jirto darwankan weeyaan marka arintan maxaan ku raa gobolka Shinile hawshiisi waxay taagan tahay mashaariicda malaayiin ay ku baxeen adu mashruucan waxa weeyaan mashruucan waa 300 milyan weeyaan mashruucan waxa warka lacagta ku baxaysa inta inagu wadno weeyaan inta iyaga hayaan marka 300 milyan bir baa ku baxday hada mashruuci dadkiina waxa weeyaan wali meena manaafacasan biyeemina ka cabin marka meeshii 300 milyan oo bir lagu bixiyay waa inay dadkii ka cabaan hada inkastoo dhameystiran yahay hada rajadii 147 mitir uu dhameystiran yahay oo waxaad sugaysaa inuu yahay Darwan way fiican tahay kan kale 140 uu fiican yahay marka laakiin hadda waxa weeyaan inaan intan waxa weeyaan inaan xukuumad ahaan kana xooga saarnay baanta mashruuca Darwan weeyaan marka waxa ka dhigan tahay arintii waxay ku xiran tahay totally mashruucan maxaa ku Darwan dadkii maxaan ku Shinile mashruucii ma taqaanaa weyn go'aanshin laga waday waxa fashilinaya mashruucan baa fashilinaya oo dhaar ma taqaanaa wana marka si cad inaan taa hoosta wax xaragno baanta si cad intaan hoosta wax xaragno in waxa weeyaan cid khusaysadii lagu la xisaabtamo weeyaan
ilaa waxa weeyaan shirkaddan wadda dee ay si cad uga jawaabto oo ayna noqonin waxa weeyaan berri baan samayn saa dambaan samayn mashruuc wuxuu noqonayaa dee waxaan yani caadi maaha dee wixii in uu socdo mataqaana maaha waxa waxa weeyaan mashruucan macquul maaha dee inuu intan maxaan kun hadda u socdo wax loo dul qaadan karana ma aha waa inay mashruuca mataqaanaa go-aanka aan qaadano tan looma dul qaadan karaya xal kale waa inaan ka gaadhnaa intaasoo jeer baan hadda qiimeyn baan gallay marka ha waxay u baahan tahay shaqadani inay meel la saaro dee meel cad in la saaray u baahan tahay oo la yidhaha xilligaasa mashruuca lagu dhamaynay beri hadda warbixinta maxamedow tan hadda jeedine lafteeda dee waxa weeyaan dhibaato badan baa ka jirta kaas laftiisu waxa weeyaan mashaariicdii deegaankeena ama awal wixii la wadi jiray kale u noqday soo socon karaa mashruucaas inuu intaas socdo ma laasxalaana waxaan kula ceelkii laga cabeeyay dee waa kii kaliya laga cabeeyay marka kana bir yar baa ku go'an birta hadday waxay sameeyay xataa marka waxa weeyaan shirkadu ka soo saartay hadday iyagu mataqaanaa waqti qaadanaysa ama generator way dadkii mashruuca bamka dee already fishinkii baa laga samayn karaa haddana waxa lagu samayn karaa haddana dee dadkii biyo ay ka cabeeyeen uu ka istaagay waa rajada kaliya qabeen ee mashruucan bakaarkeen ceelkaas oo ah ceelkiina wuu istaagay waxa weeyaan maxaa kula lagama cabeeyo marka dee waxay noqonaysaa hawshan hawlan maxaan ku raay inaan loo dulqaadan karin tusaale dhabna waxa waa ceelka kaliya hay waxa weeyaan dhaarwan dambalay shaaca ay ka cabeysay kii kaliya ma taqaanaa uu istaagay marka halkaas waxa weeyaan dee waa dhibaatada weyn way ka dhigan tahay cidii qiimeynaysa iyo cidii waday iyo cidii gacanta ku haysa intuba dee waa faylku iyaga kaliya ma cidii dabagelaysay cidii waday cidii waxa weeyaan waxaan si dadban iyo si toosaba saameynta ugu lahayd intuba dee waa dhibaato ma taqaanaa markaa inoo taabanaysa noqonaysa marka hadda xoog in la saaro kamay noqonaysaa xoog kaliis ugu geena qiimeyntiisa iyo in maxaan ku rahay daba socod halkaa la fadhiisto guddi inta loo saaro halkaa in maxaan ku rahay dambal laga sameeyo saddex xafiis heer deegaan oo halkaa fadhida mataqaanaa ay noqoto oo waxa weeyaan halkaa la fadhiisto waxa weeyaan 40 saac la soo report gareeyo u baahan tahay waxa weeyaan si loo dabagalayo shirkadahan interpretada aanu dabagelayno si ka gooniyo mashruucan loo dabagalo u baahan 40 saac la qaato marka maanta intaan hadda waqtiga isla qaadano in waxa mashruucan sidoo ku dhamaan lahaa inay noqoto shakhsi ba hadda waxaan qaribaya oo hal shakhsi yaa qaribaya oo dan kale ma taqaanaa yeelan kara yaa qaribaya ma wadci kartaa leakage inta inuu ma taqaanaa leakage ku soo kiimani marka la isku rakabiyo fittingiga in laga dadaalo baanta biyo marka la isku rakabiyo waa dhibaato ka imanaysa oo isku xirkiyo fittingiga ma ka imanaysa leakage iyo marka la isku xiriyo kolka hore hadaan laga taxadar marka la aasayo tubada la aasayo biyo ma taqaanaa leakage way yeelanayaan waxa u baahan tahay leex jeclo waxa weeye lahaansho arinta waxa weeyaan leex jeclo u baahan tahay marka la isku xiriyo tubada iyo waxsan hadda mashruucan baka gomar aad baan uga yaabay maxaan ku raay isaga laftiisa 3 meelood leakage ka lahaa inta u dhaxaysa bakiyan ma taqaana meel ceelkiiyo bakeeta u dhaxaysa meel leakage ka sidayay biyo markii dhulka ka soo baxeen marka waxaad garanaysaa biyo baa dhulka biyo safar ku jiray socday baa dhulka soo baxay marka inuu leakage wala garanayaa kuma banaan iyaga leakage ku jiro isla markii marka hadda way ka gaajin leakage way man laakiin kolka habeen laga immediately amar baan bixinay marka leakage kaas maxaan ku raayay sida u dhaxso wax laga qabto markiiba hadda maxamed aad buu maasan yahay adoo mashruucan maxaan ku raayay soo bood gareeyeen biyaha laga cabo waa sax ta kale mashruucan maxaan ku raayay tijaabada waxa weeyaan ceelashan dhaadheer tijaabada waxa weeyaan waa iyo caale maxaan ku raayay xarshin daroor gaashamo marsin daraatole iyo danood waxa weeyaan mashruucan hadda meesha la yiraahdo xarshin in biyo laga helo horta biyo laga helo shidaal ma ku ixtiraami karnaa xataa shidaalka waxa ku shaqeeya bir biyaha dad baa ku shaqeeya shidaalka laftiisa marka la soo qaado bir baa lagu shubaa ku shaqeysa laakiin biyaha dad marka shidaal iyo diamond uu ka waxsan yahay in xarshin biyo laga helo ama meelaha soo carabka lagu dhigto biyo laga helo waa ceel tijaaba anu laakiin hadda ilaa iyo maxaan ku raayay arkoodii waxa weeyaan aniga maalinta la horta waxaan ku raayay wala aan aragno horta dhowr biloodka labada bilood soo socota ilaa mashruucaas labada bilood soo socota markuu waxa weey ceelkaas biyo sida ahaado baan maxaan ku arkaynaa waliba xilliga jilaalka uu si fiirsan doona hadii la yiraahdo xilliga jilaalka yaa arki doona hadii la yiraahdo sida looga cabo laakiin hadda waxaan xalahay 15 cisho u dhaw laga cabay maalinka oo markii soo ka dambeysay ka jidka tagay ama waan soo arkay ilaa tal cabay hadana markaan soo galay waan soo garaaco wal cabay laga cabaya waxa isku waxa la wixii ta maxay gooydaas wadi
waa sax weey hadii laga cabayo xataa xarig ka soo jirmayna sababtoo waxa weeyaan kan waa tijaabo ha socdo tijaabo weeyaan marka magaalada kuma filadii magaalada kuma fila marka mustaqbalka in waxa weeyaan adigu waa biyo badan marka la eego marka biyo badan weeyaan balse laakiin hadana biyo gelinta isagoo sidan magaalada waa lagu sameyn karaa muxuu baahan yahay laakiin in ceel kale loogu daro baahan yahay laakiin waxa weeyaan waxaan ku raahay iyo calana waa in dhaqso loo bilaawday mobilizationkiisa ma taqaana dhaqso loo bilaabo ta kale waxa weeyaan maxaa in la wada bilaabo maxaan ku raahay diidaya maadaama miisaanada loo hayay kii awaariyo iyo ka awaariyo ka gaashamay ka darorba degmada la yiraahdo dara toole iyo dano lafteeda way iska cadayday biyo toos loo heli very clear weeyaan dano lafteeda waa very clear biyaha taqaana in laga heli markaan hadda anu waxa weeyaan satellite image markaan eegay meelaha maxaan ku raahay ama engineer ay tusiyeen danood iyo waxa weeyaan iyo darata labadaba waxaan ku raahay biyo waa clear weeyaan marka dhulkaas biiraanta baan ka jirto xoog in la saaraa loo baahan yahay waxa weeyaan ceelashu waxay nagu noqdeen maxaan ku raahay wax aan inaba aan caadi ahayn dhibaatadeedu inkastoo 600 mitir in la qodo Ethiopia ceelkii ugu dheeraa ceelashu ugu dheeraa yihiin ama 600 mitir ceelka in la ilaaliyo inuu dimo inuu haysto ay dhibaatada sida tahay bas laakiin haddana experience hadda waan u leenahay taasna in mataqaana xoog la saaray oo ay u baahan tahay daroor maxaan ku raahay magaalada dhexdeeda laga heli saan maxaan ku raahay anu aan qabo waxa weeyaan kama fogo daroor magaalada dhexdeeda sida maxaan ku raahay gaashaamo ugu fogeen ee looga helayo ya maxaan ku raahay daroor ugu fogeen marka iyada guud ahaan waa in dhulkayna horta saasaan u kala garan karayna oo kala naqaano marka maxaan ku raahay salaada la soo tukado kadib waa soo noqon liya sacabada lagom baxa balantenu wa shaqo balantenu wa shaqo deraho israa'iyo midnimadoodu baaqda balantenu wa